الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijka miiska wada hadalka ama mimbarul xiwaar oo alaaba halkan aad ka daawataan. Fadhigan waa fadhigii saddexaad oo ay isugu yimaadaan culimada diinka dhanka ahlu sunnaha iyo dhanka shiicada. Sheekh Cabdirashiid Sheekh Maxamed ayaan kusoo dhaweynayaa. Sheekh Cabdirashiid kusoo dhawow. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا معي عبد الرشيد محمد آدم وحان كالصعودة لنا أهل السنة موضوع كسابسا الخلفاء الراشدون هي خلافة ده إيو إنا يهاين أئمة الهدى إنا يهاين موضوع عسان كهل لنا وحان كالصعودة أهل السنة كالصعودة الله يحييكم. وما أحسنت هاي شيخ فارح كسلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقعي هو فارح إبراهيم شيخ عبدي وحان كالسعودة ممثلين تم دراسة الرسول كان صلى الله عليه وآله وسلم اللي يقال علماء الشيعة الاثنى عشرية. وحان إن شاء الله موضوع أن كهد لنا مانتا وموضوع الخلافة. خلافة دي صومرتي ومدى إسلام كأه يوحي أي هايين بإذن الله الباري سيأنه مدى أقعدين. وما هسنتين دمانتين موضوع وحوها خلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين هي واحد كقبة الشيعة وحان كسر ويننا شعب الشيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاته والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهدي إلى مدينة ما بعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. dib u celin yar macnaha waa mawduucii saddexaad oo aan la gallo qolyaha shiicada ah. Waxaan horey uga soo hadalnay qur-aanka fadhi hore, waxaan kaloo ka soo hadalnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cismadiisa iyo meel ka dhaca iyo say mataqaanaa waxa la yidhahdo ay u tashniiciyeen ama se u takfiiriyeen ama se ernaar ugu xukumeen qolyaha shiicada la yidhaahdo. Marka waxaan ka yara cudur daaranayaa tusaalahan fadhiyadaas hore oo kale xoogaa xagga qalabka waxbaa naga yara hadlaysana hawshaasaan ka daaranayaa kow. Waxaan kaloo ka cudur daaranayaa waqtigaa nagu yar qolyaha ma dhexdhexaadka maamulka abaan isaa go'aamiyay marka waqtiga hadii nagu yaraado wixii ciriiri iga soo galaa waan ka cudur daaranayaa. Inta haddaan kaga gudbo waxaanu ka hadalnaa walaalayaal oo aan kala niqaashnaa wadaadadan waxa la yidhaahdo waa alkhulafaa ar-raashiduun ridwaanullaahi calayhim. khulafaa ar-raashiduun anagu waxaanu leenahay waa khilaafadii intii ka dambeysay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii lagu soo aaminay ee ummaddana soo samata bixiyey ee ilaahay subxaana watacaala agtiisana maraatib iyo wax leh darajooyin khayr ka leh ilaahay subxaana watacaalana qur-aankiisa ku caddeeyey qur-aanka ilaahay ku caddeeyeyna axaadiista rasuulkuna caddaysay axaadiista aan soo qaadanana wixii iyaga iyo annagu aan isku waafaqsannahay baan soo qaadanaya haddii lahayd. sidaad og tihiin sheecadu su-aalahaan baan su-aalaha haryaan baan ka dhigi doonaa. allah weyna waaxidka wuxuu leeyahay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin waalansaar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما شاءوا في رصدا خالدين فيها أبدا بإله سبحانه وتعالى ذلك الفوز العظيم. والسابقون كوي هرمري هرمري إسلام نمضة يسوق لتانكود الأولون هريي بالنسبة من أسلم يعني كوي إسلامي كوي هريي وحالو ليه إسلام كوي هرمرين كو أنت إسلامتين وهرمرين لبو من المهاجرين. waxaad ogtiin khulafadu maxay kamid yihiin muhaajiriin bi kamid yihiin Soomaa. Mawduuc maanta marka wuxuu ku saabsan yahay min al muhaajiriin hoosta ka xariiq iyo wal ansaar walladina tabacuuhum iyo kuwii raacay haye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaar ka bacdi intii nabi maxamed rumaysay saxaabadiisa ahayd baad ka soo bilaabaysaa ilaa iyo qiyaam saaca intii rumaysay ilaahay iyo rasuulkiisa isla markaana dariiqada saxaabada ay mareen martay والذين اتبعوهم كوي كراع بإحسان رضي الله عنهم وحاد فيرستا هوستا كحريقو إلهي باكرها للنقضي إلهي باكرها للنقضي إيمان كوده إسلام نمدوده معناها هنون كوده وناق كوده بإلهي سبحانه وتعالى كرها للنقضي هاي ورضوا عنه يقول إلهي باكرها للنقضي ومحا أقوى عنه يقولها للنقضي وين إلهي سبحانه وتعالى ما داب إلهي يقول كرها للنقضي يقول إلهي باكرها للنقضي بإلهي سبحانه وتعالى وليه وعد لهم جنات تجري من تحت الانهار يعني إلهي وحكله الدياري جنوين jannooyinkaasu jannooyinka oo dhan ma ahee waa jannooyin ka sii duwan maxay kaga duwan yihiin wabiyaal baa hoostooda qulqulaya
haye waxay kaloo ku sii cajiibsan yihiin haddana markay jannooyinka galaan khaalidiina fiiha abadan weligood way ku waarayaan ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku leeyay daalika arrintaas la soo sheegay muhaajiriin ay leedahay iyo khulafadu ugu horeeyaan yacni arrintaas iyada alfaws waa liibaantii alcadiim ee weynayd allaha weyna waaxidkaaba kule waa liibaantii weynayd weeyaan walaalayaal marka هنا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحنا شكينا تدك نوع عاسها وحل يهذا أبال مرنت نوع عاسها لي إلهي رالي هالشيء سهلي جنوين هلي كواريا هدنا إلهي اللي مانتي سهلي اللي مانتا سنولي ومد وين إلهي أكتس كوين وحلياب لشيعاد وحلي وحصل وحكي من شيران وحكتبت قرن أبو بكر عمر عثمان اسكو صدودوبا وحلو يرن خلفاء الراشدين علي بن أبي طالب مركل لغرهبو قفك هالمر لعنة هل مر هذا واحد هل قفك العنده باشنوينك قليا كون واريا انت سو اجرن هليا وهل مر بالله عليكم سؤال وحيت مرك الله سبحانه وتعالى يجا ايما بيرون شيغي يا رون شيغي سؤال صحور بني كجوابن ايات القران maxay kaga jawaabay iyo waxa kutubtada ku qoran malahays waafajiyeen aayada labaad ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana meesha u fiirsi ilaahay baan ku dhaarshay muhaajiriintii fuqarada ahayd kuwii guryahoodii laga soo saaray ee xoolahoodii laga soo saaray maxaa looga soo saaray billahi alaykum maxaa looga soo saaray yabtaguna fadlan waxay raadinayaan oo dalbanayaan fadlan ilaahay bay ajar ka rabaan min Allah ilaahay bay ka rabaan iyo waridwaana ilaahay raali ahaanshiisa ka rabaan haye xoolahoodii waxa uga tageen wayansuruna Allah ilaahay bay u gargaarayaan iyo diintiisa oo rasuuluhu iyo rasuulkiisa ilaahay wuxuu ulaaika kuwaas iyaga hum iyaga unba waxay yihiin as-saadiquuna kuwa runta sheegay iimaanku run ka sheegeen oo islaamnimada run ka sheegeen oo waxay run ka sheegeen macnaha qiyamka islaamnimada ay qaateen iyo nusraynta Allah iyo rasuulkiisa run ka sheegeen waxay yiraahdeen shaaciyow waxba kama jiraan qofkii hal mar lacnada hal mar khulafaa ur-raashidiin qofkii hal mar lacnada qofkaas waa ahlu janna yiraahdeen ilaahay subhanahu wa ta'ala saas uu leeyahay waa muhaajiriin wajiga dalaalada macnaha si waxaan kuugu cadeeyay yaani ilaahay muhaajiriin buu yiri muhaajiriin yaa la yiraahdaa horta taariifkooda waa qofkii ka soo hijrooday maka ka soo hijrooday ama waxa la yiraahdaa dar istiraaxiga hore ee loo yaqaanay maka intuu ka soo hijrooday rasuulkii iyo madiina tagay u hijrooday yaa ugu horeeyay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo abu bakar baa ugu horeeyay abu bakar inuu ku jireen waa u tagi doonaa kutubtooda ku taala inuu muhaajirkii nabi maxamed la socday idan wajhu dalaala waxa weeyaan ilaahay baa sheegay muhaajiruun inay ahlul janna yihiin ilaahay dartiina ay u hijroodeen runna iimaankooda u yahay xaqiiqana u yahay shaaca waxay dhahan waxaas xaba kama jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala bil xisaabtankiisa ka hor kale ilaahay baa weydiin doonee waxaan weydiinanaa bal ilaahay iyo kitaabkiisa maxaad kaga jawaabaysa qofkii iimaan ku jiro ama ilaahay rumaysan ama ilaahay iyo rasuulkiisa inuu is hortaagi doono quraankuna uu isagoo hadlay hor iimaan doono bal wuxuu kaga jawaabaa noo sii sheego aayada saddexaad waxay tahay الله سبحانه وتعالى حليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم حد أركيسا نبي محمد iyo kuwii la socday isaga la jira waa saxaabadii muhaajiriin ansaar ba isku wada daro saxaabadii dhan duduube macnaha inagu waxaan uga jeednaa saxaabadii hadii la yiraahdo waxa ku jira ugu horeeyay maxay khulafaa ur-raashidiin baa ugu horeeyay macnaha saa faham haye waxaad arkaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala rukaan waa kuwa waa salaad badan way iska rukuucsan markasta sujuudan way sujuud badan yihiin markasta maxay u sujuudayaan ee u rukuucayaan markasta yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana waxay raadinayaan oo dalbayaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka rajaynayaan waxa la yiraahdo maxay ilaahay inuu ka raali noqdo iyo ilaahay ajar siiyo fadli bay min Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala karama aayadaasuna marka waa aayada ahlu sunnuhu ay yiraahdeen qofkii yiraahdo waxa la yiraahdo saxaabada wax ka sheega waahidun minhum uu sugnaaday inuu saxaabi noqday koow sidaasna uu ku dhintay islaamnimadaas waahid minhum qofkii ka sheego diinta islaamka ka baxaya ahlu sunnuhu saasi qaba طيب waxa la yiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala aayada kale waxay tahay aayada afraad aayada soo aayada saddexaad oo meetaan soo sheegay aayada afraad waxay tahay ilaahay wuxuu yiri laqad radiyallahu 'anil mu'minin hoosta ka xariiq ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka raali noqday mu'miniinti id xillibu ka raali noqday yubaayicunaka ay kula mubaayactamayaan oo kula ballamayaan oo ahdi iyo ballan kula galayaan nabi maxamedow xilligaas oo ay taxta shajarati geedkii ku hoos sugnaayeen facalima allah wuxuu ogaaday weyna waahidka ala ya'lam man khalaqa huwa ladiif khabiir bi ilaahi subhanahu wa ta'ala leey ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ogaaday ma fi qulubihim ilaahi subhanahu wa ta'ala ma fi qulubihim qalbigood ku jira oo islaaminimo ah oo iimaan ah oo run sheeg ah oo ikhlaas ah bu ilaahi subhanahu wa ta'ala abuuray ilaahi qalbigooda soo ma abuurin
iyagana ilaahay sooma abuurin carabkay gacantay ku mubaayacoonayaan ilaahay sooma abuurin idan ilaahay ma wuxuu ogaan waayay marka carabka ay ku hadlayaan qalbiga uu ka turjumaya xaqiiqada ku jirta miyuu ilaahay ogaan waayay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacala markaas wuxuu leeyahay hee facalimay alla wuxuu ogaad maa fii quluubihim faanzala alla wuxuu soo dejiyey assakiinata waxa la yidhaahdo deganaansho iyo xasilooniyo iimaan buu ilaahay subxana wa tacaala calayhim korkood kusoo dejiyey wa athaabahum alla waxaanu mataqaanay uu ka ajar siiyey fadxan qariiban alla hor ciidhii bay ku jireen soomaa xoolahoodii waa laga soo caydhiy soomaa waa loo gurmaday waa su-aasha afraad aayadda qur-aanka markaa maxalu shaahidku wuxuu yahay laga daliishanayo a'immadii khulafaa u raashiduun waxay ahaayeen baycatu ridwaan bay wada ahaayeen kulligood cuhmaan binu cafaan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu ku yidhi anigaa u qaaday markaasuu yidhi gacantiidii iyo tiisi waatan labadiisa gamcooda suubanaha isaga markaa kulligood kasii wada bayco fiican ballanta yaa gelaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gacantiisa bidix yaa qaadaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisa midig ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka yidhi facalima maa fii quluubihim ilaahay baana ogaaday runsheegooda cid walbaba bilaahi calaykum aayadda qur-aanka ilaahay subxana wa tacala saasuu inaga leeyahay waxay dhaheen nimanka la yihahdo shiicada raafidada waxay yidhahdeen waxaas waxba kama jiraan far baa noo taagan aayaadka qur-aanka waa macruuf subxaana allah suuratu tawba iyo mataqaana wax waan soo wadaa macnaha taas macnaha waan taa waan soo wadaa macnaha waa shay macruuf oo waxaa lama diidaana waxaana warqado oo dhanto wadan sheekh ku yaalaan marka bilaahi calaykum arrinta isweydiinta mudan waxay tahay waxa la yidhaahdo bal aayadaha qur-aanka ah war bal ilaahay iyo sheeca isukay waafajiya bilaahi calaykum bal waxaa isukay waafajisaan ilaahay subxaana wa tacala dadkii uu doortay iyo dadkii ilaahay uu doortay dadka kusoo duulay sheecada waxaa isukay waafajisaan ilaahay qur-aankan wuxuu ka yidhi iyo waxa la yidhahdo maxay iyo waxaa isukay waafajisaan iyo waxaa isukay waafajisaan mataqaana nimanka diiday nimanka yidhi hal qof oo kamida bani aadamka dhulka jooga hadduu hal mar waqtiga ga dhamaaday miya ayib kusoo dhawowsha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أخواذا لما كسو قيب شيء أديات بدو مهدسنتين برنامج كأن ما أنت أبلنا سنة وحويان حلو يقانو الخلافة أما خلفاء الراشدين ولغو مقعابي الراشدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحان دونها يا إن أنه الرأي حديثك هل كحديث سواء أرور النبي وموسى مقعابين صلى الله عليه وآله وسلم خلفاء الراشدين وحل اللي يراهدو والنبي يري وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر مننا مجرو لا يوجد في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الراشدون المهديين هدي اللي يراهدنا وحي عدينيسا أو يسوغيسا أئمة أهل البيت المهديين إن يجويين ومحايا إمام المهدي أو متفق لبدا جنبي أي كويهين أيام مقع إسكاله هل مقع وقفك أوليهين ولا جمعية أسماء ذا إيذا وحان ربا مركا إنا كذب تقوى آيذهن إيذا وخلفاء الراشدون اللي يراهدو إني من الجرين جبي أهام با أيان ربا إنا صور آيات القرآن سود لشدي أوليهي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وحقيقة هي آية مثبتة لكن مهاجرين ودن ما وضع سقنيت وحن أركد دونا إن يران فيرن دونا وعنك الذي هجري عبيد الله وهل كان كجروا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عبيد الله بن جحش باكجري أنه دخل هجرتين أيوه قلي inaynan raggaasoo dhan wada ahlu jannahin baan rabaa inaan kuu sugo laba hijra ayuu galay hijratul xabash oo laba jeer ayuu galay markuu labadii jeer galay wuxuu ku ridoobay meesha loo yaqaano ardul xabash buu ku ridoobay waa ubaydullah bin jahsh wuxuu qabay gabadhii la dhihi jiray ramlata binti abi sufyaan gabadha iyada ana diinteedii bay baaqi ku ahayd isaguna wuu ridoobay famaata nasraaniyan isagoo nasraani ah ayuu dhintay ninka oo khadka u ka baxay muhaajiriinta kale ee iyaguna gaalowday ee shariicada islaamka ka baxday ilaahayna uu ka raadi noqday baan idin sheegi waxaa ka mid ah ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibn khatal uu nabigu u yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam ina bna khatalin mutacalliqun biistaari lkacba maalinkii maka la qabsaday iyo saxaabadu saa dheheen nabigu wuxuu yidhi uqtuluuhu kama fi lbukhaariyi wa muslim sida ku soo aroortay waxaa ka mid ah raggii kale ee nebiga qur'aanka kariimka alla yidhi 3 meelood markii loo dhiga 2 meel bay qoreen 3 meelood markii loo dhiga 2 qur'aankana uu bedeli jiroon matniga bukhaariga dul istaagi doono waa ninkii la dhihi jiray cabdullaahi bin sacd bin abi sarx ninkii la dhihi jiray way oo uthmaan bin affan walaalka la ahaa oo dhinaca ridaaca walaalada kula ahaa qur'aanka kariimka oo dhan inta badan isaga ayaa qoray kaatibu wahyi rasuulillaahi ayuu ahaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam fartadda ninka isaga waa ridoobay maalinkii maka la qabtay ayaa wuxuu ajiir u noqday oo uu fangalay walaalkii ninkii la dhihi jiray Uthman bin Affan nabigana sallallahu alayhi wa alihi wasallam mar haduu Uthman uu hoosta gashaday walaalna uu kula ahaa nuugmada uu walaalo kula ahaa uu iska cafiyo uu iska daayay
gebi ahaanba faraha ayuu ka qaaday waxaa kaloo ka mid a raggii ridoobay ee muhaajiriinta ahaa ee haddana kaatibiinta waxyiga ku jiray ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibni sabaaba halkaa waxaan u malaynayaa waa 4 nin intaan soo sheegnay cadad ma ay laha raggaa muhaajiriinta loo yaqaano ansaartana loo yaqaano ee ridoobay gebi ahaanba ayib sheekh wuxuu sheegay saxaabadu inay tahay dadka ilaahay rumeeyey ee ku dhintay dadka gaaloobay muuna ka hadlay maya muusan kala qaadinoo aayaddu mayna kala qaadinoo waxay tihi asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari raggaa muhaajiriin bay ahayn ansaar bay aayaddu mayna kala qaadin aayadda qur'aanka ahee uu soo qaatay wax tafriiq ah sheekh waxa kugu taagan musbaarka iska bixi cabaadin joog gadaalka fadhi aayadan qur'aanka waxa maynan kala saarin asaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriina waalansaar hadda waxaan soo sheegnay cadad aad u fara badan oo muhaajiriin iyo ansaarba aha oo ridoobay baan sheegnay gebi ahaanba ayib waxaa kaloo jiro rag muhaajiriin ah oo ninkii la dhihi jiray aad u fiiri hadda oo ilaahay uu ku tilmaamay faasiq buu ku tilmaamay faasiq ilaahay qur'aankiisa kariimka nin saxaabiya uu ku tilmaamay faasiq baa jiro ninkii la dhihi jiray waliid ibnu cutba ilaahay wuxuu ku tilmaamay faasiq صحابتي بونا كمد أها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتون رواية كلا أي أهيد آيادا إيادا وين مينا كلا قادن أنصار إيا مهاجرين فربضن أرهدوا بين هلكا أيام كو أرقنا آيادا كلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قرآن كو أساق أيا إسفسره إلهي وحو كراد النقضي من المؤمنين أيو كراد النقضي لقد رضي الله من المؤمنين أيو كراد النقضي إذ وقت بو كراد النقضي يبايعونك أي كلا مبايعون تحت الشجرة جيدي هوستي أي كلا مبايعون هين فعلم إلهي وحو أغادي ما في قلوبهم إيه قلوب توضا وحكو السجن هو معي بركود إني نفاق قالي دونان بركود إني برين دونان مدن إيادا آيات كلا كهر رئيس فيري إلهي جل وعلا وحوليه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث بيعذا يدا الرجي بريو فإنما ينكث على نفسه نفتي أم بريو وعقل موسى بريو بيعذا مركا إن لقى بحيبان كتوس دونا فعلم ما في قلوبهم مركا ليلي فاء تعقيبا رعيوها فأنزل سكينة مدد قالوا بي بقى يا سكينة للسنة نينك لو يقانو ابن الأثير وحو بابيستي ومن علماء أهل السنة والجماعة كتاب كيس لو يقانو أسد الغابة يا كتاب كيس تاريخ الكامل لبضوا وحو بابيست باب الله يابي فعلم ما في قلوبهم وحو كفا سريبا ينكو شيء وحديث عبد الله بن عباس وحبر هذه الأمة أيو يقانان عند أهل السنة والجماعة وكسو قاذا هي فعلم إلهي وحو أغاذي ما في قلوبهم قلوب توضا وحا كسوغن وبركوذ أغو بعض ما في قلوبهم وحا كسوغن أو من النفاق والإلحاد إيا وحا ويان والنكثة آيادا قرآن كلا كو عدينيسو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث قفكي بريو فإنما ينكث على نفسه إن لبريان كو شيء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بخاري وحوبا باستباب لي هذا الرزية يوم الخميس مالنتي مصيبة النبي إن لبريي ووحا ويان لبينيي أيان ربا إنا صوبان ديغو صحيح البخاري وحسوها يا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم روايوين لياب له نبينا جيريدي صدح مال كهر صدح مال أيو صحابتي سيسوي جاري هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده وحوري ورئي كان كتاب أن إذن قرأ إذن بعدي دب دنب إذن أباذيوبين كتاب إيه كان إذن بعدي دب دنب أباذيوبين صحابتي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل كان إيذا أمرك أي تري عبد الله بن عباس وحديث كإسجى اللي جورنه في صحيح البخاري ومسلم كسجن وأبي داود والترمذي وابن ماجه في كتب أهل السنة والجماعة أكثر كوضا كسجن وحوله عبد الله بن عباس وما أدراك ما يوم الخميس محاك أوجسي مالنتها خميسة النبي قال بينين دوني صلى الله عليه وآله وسلم اشتد برسول الله وجعه نبي وحاضر ناضي حنون كيسبات أدرنا فقال وحوله هلم أكتب لكم كتابا لا تدلوا بعده فقال عمر باوحوري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وفي رواية لمسلم فقالوا وحيد إن النبي إن هذا الرجل لا يهجر ننكن وانن والنا نن wax laga dhageysan kara ma aha ومع ذلك مسلم با wuxuu leeyahay oo sharx imaam an-nawawi uu sharxay fanajawna waxaan ku badbaadnay maalinka iyada bifiqh umar baan ku badbaadnay rasuulullah muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma'dara ya rasuulallah rasuulka ilaahi baa god naga tuuri laha rasuulkuna haduu wax amro maxaa la rabaa amar haduu bixiyo ilaahi quraankiisa kariimka wuxuu leeyahay ayuha alladina aamanu istajibu
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إلهي رسولك سهدي إذن يران أجيبا مر نبيا هذا اللي علين مركب رسولك هذا البال علي رسولك أو هذا اللي علين إلهي محكير ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره إلهي له رجع رسول الله محمد هل كأيجا أي سجود بيسي فيري هذا وحول له إمام وبخاري اللفتي سبر همنا إن ندل استاجن وعندكم القرآن بقى هذه بيقول حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت كأي إسخلاف وصحيح البخاري واختصموا ويدودين مركا منهم وحاكم إذا من يقول قفل قربوا دوية يكتب لكم كتابا لا تدلوا بعده ورود دوية النبي كتاب أيضا بعد باديو بينبوا إذين قرهياي ومنهم وحاكم إذا من يقول ما قال عمر ننك أفك أتكا الرسول كأد أو أف أتكي هذا الكيس دتك قولها يقول إن الرجل لا يهجر رواية مسلم نوالو تجدونا رجل بقى كم ده ونك رسول الله محمد ووالي هيله هل هذا هو مؤمن وهل هذا هو مسلم وهل هذا فيه وهل دخل في قلبه قطعة من الإيمان نك مكجرتا قلبه سقطعير أو إيمانك كم ده وما إذن وحولها وحول النبي فلما كثر اللغو مركو قيلاد أي بدت اللغو إيه والاختلاف اختلاف كي مركي بدت عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال وحول النبي قال وحول لهم يا رسول الله وحول قوموا استاجع عني أنا حقيقة استاجع فكان ابن عباس وحوها يقول كيكو قول إن الرزية كل الرزية مصيبة أوردن ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب مصيبة أوردن وحي أهيد كتابة دي رسولك إيا هذا الرسولك وحكى لتهذا ويا بالله بهذا من تولى هذا الكلمة هو عمر أيها أرنتها إياذا أمركوا أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم عبد الله بن عباس مركب محوله يجري مر الله لمركوا حادثة أو أركو عبد الله بن عباس وأو يجري حسيه اللي أنت إستاجك كقول قشة أيا وحي بوحنجرتي دولك أي بوحنجرتي محوله إنك لو يقان أبو يعلى الموسلي ما رمنا وح وكيري إمام مسلمنا إن يجونا روايين كيجا هل أن أدب استاجنا وبالآن في إنه أيان دون إن هذا رسول الله محمد الجوري صلى الله عليه وآله وسلم وهل يستحق هذا كان النبي وميومته إلا النبي هذا الهضوب بحيه إلهي القرآن كيس كريم كأو حكوله يا أيها الذين الإلهي وحكوله وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ رسولك دشيسا wax kale ma ahaanin ilaa waxa ahaatay gaarsiin oo iyaga gaarsiiyay mooyaane wax kale rasuulka dushiisa ma ahan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu yiri wadaadkooda arkaysan macnaha duurka u jeexay iyo meeshu ka dhacay wadaad arkaysan baan u malaynay كو وحول يدي واحد اللي محمد عليه الصلاة والسلام ما مقعابين بود هاي ميت كمية خلفية ينهرت ما وصل مقعابين بودي محمد إيش أصدر حلا معناها نمانك اللي هذا خلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي يعناها حق إلهي سبحانه وتعالى حق النبي محمد تونا يعني واحد اللي هذا واحد كهيستين متشيران أو وناقة هذا يراتي والعيد مش يجنين الله ينشيجن ولا نبي محمد ينشيجن ساسوي معناها أنا واحد ينشيجن إن شاء الله تعالى كتبتها رسولنا يتشاعد واحد متخفى كويهين عدة la sheegayo khulafaa raashidun loola jeedo inay yihiin waxa la yiraahdo asmaadaas haddaas la sheegnay raga barakaysan awliyada ilaahay inay kamid yihiin wuxuu yiri aayadaha quraanka waxa soo galay nimankii ridoobay baa soo galay saxaabi maxaa la yiraahdaa marka horan hadalkaaga bilaabay saxaabi maxaa la yiraahdaa horta saxaabi waxa weeyaan ninkii nabiga kaleey salaatu wasalaam la kulmay koow ee rumeeyay labo sidaas uu rubaysnaana ku dhintay horta saxaabi la yiraahdaa ma diidanin way jireen dad yoontii soo islaam ridoomeen ilaa yaalaankana way jiraan marka horey saxaabi oo ahaayeen maadami ka hadlis Allah subhanahu wa ta'ala ballanqaadkiisu xaqiiqo iyo run weey shakina kama jiro ilaahay baa waxa subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay khalidina fiha abadan way ku waari doonaan wuxuu leeyahay ka wada halka inuu ku yiraahdo kuwa ridoobay gaalada aba naar jannada ku waaray saas rabaa inuu ku yiraahdo marka arintaas maxaad malaynaysaa idinku yacnaha waa takdiib oo hadana oo bilow ah kii hor mid ka daraway khaladka kale uu galay wuxuu leeyahay ninka la waliid ibn utba ma taqaana waxa la in jaakum faasiqun bin nabiy fatabayanu ayada quraanka ayada quraanka horta saxaabi buu horta khaladka uu galayna waxa la yiraahdo wadaadka saxaabigaas isagoo horta wadaadkan khaladku galay baan idin sheegaya waliba laba meelood ka galay mid cilmiye iyo mid ma garanayso ugu dhacay ma jahli buu ugu dhacay ma garanayo khaladka cilmiga waxa weeyaan saxaabiga marka ilaahay quraanka uu soo dejinayo quraanku asbaab ku yimaada asbaabtaas uu ku yimaado alqaabta uu wato quraanku marka iyo awsaafta quraanku uu waday xambaarsan yahayna waxay xaqiiqadu ay ku tadbiiq ilaa qiyaam saaca qofkii yimaada saxaabigan waxba loo diray wix hadalkii uu khilaafay هنا بقى مركب حل يدي إن جاءكم فاسق بنبأ
laakiin maxaa loo jeedaa aayadda quraanka maxaa ujeedaa waxaa ujeedaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa ciddii khilaaftay bay ujeedaa bay aayaddu haysataa ilaa qiyaami saaca qofka yimaada waa meesha markaa la yidhaahdo yacnaha khusuusiga laguma dhego sababta waxan ay kusoo degeene laakiinse lafdigan cumuumkiisa iyo ictibaarka iyo axkaamta iyo macaanida uu xambaarsan yahay baa la qaataa lagu dhaqmaa khalad kalu galayo wuxuu yidhi waxa waa fi riwaayatin waxaa ku sugan hee fatathabatu ma fi riwaayad kale mise fi qira'a kale idhahna ilaahay ku dhaarshay maxaan meeshan idhahnaa yacnaha waa khalad xitaa qur-aanka waxa la yidhaha matnigiisa oo iska cad weeyaan waxa la yidhaahdo qira'ani dee sax in la yidhaahdo wuxuu yidhi waxa la riwaaya ku sugan buu ku leeyahy sidii mataqaanay sidii a'immadii shaacada ay yidhahdeen oo kale طيب خلدك كلا وقال يحول فعلم ما في قلوبهم من نفاق بكفسر والنفاق إلهي سبحانه وتعالى نهدر محلين آخرين أنا هدر محلين آخرين بالله عليكم هدر معنا إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي كرها للنقضي حقين منافقين مركز أصلا لقد رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة ما يشعروا في رسول فأنزل الله سودتي السكينة سكينة محلي هذا سؤال شاسر بينه ويديو ومحو كل إلهي سبحانه وتعالى فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا حتى إلهي سبحانه وتعالى النصر ما دام إيمان كاس إيه إخلاص كاس إيه إسلام لماذا أصاب هاي ستان حتى فتح قريب أدونك رنبا على ينفر يابو إلهي كسر بكفر حلان طنطاب إلهي سبحانه وتعالى ماشي أقول بشارين طيب وخلطاتك وقلوي خلطاتك كلا وقلوي وحاليا وحاكوت شراء وحولي هاي وحودا هاي عمر بانو كوبت بادني ساعة مسلم حاكوتها لابو ليه عمر بان ku badbaadnay nabi maxamedna waa ku halaagsanay baad ku taala xagee ku taala nabi maxamed ku halaagsanay bal meesha ku taala sheego nabi cumar baan ku badbaadnay nabi maxamed fiqigiisa baan ku halaagsanay buu inay billahi alaykum aan maqlay man maranay bal ha sheego qisada iyadoo aan ka jawaabi doono cumar hawshiisa hore way soo socotaa aayada fi suurati nisaa inaga iska leh macnaha aayada suurati nisaa wa man yattabi' ghayra sabil almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama macnaha soo ismay raacin Abu Bakr iyo Cumar iyo Uthman iyo Ali iyo jamiicu saxaaba على بيعة أبو بكر وعلى بيعة مركو أبو بكر يوحي دينتانا على بيعة عمر يوحي كلا كسوري مركو دينتانا على بيعة العثمان والله صوص مرة عين هكذا جواب وحلي هذا مركا يا هيستا مركا عيدو بالله عليكم ما أهل السنة هيستا مسوحي هيستا شاع هيستا أنا قاس كله ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وصاد مصيرا بالله سبحانه وتعالى سجى أقمش كل دون آخره أيضا أما قصة العمر ee ku saabsanay xilliga rasuulka kaleey salaatu wasalaam markuu geeriyoonay dhibka ku dhacay bal hadii iga dhageyst waxa la yiraahdo wuxuu dhahay Umar bin Khattab iyo ragii dadka la joogay rasuulka kaleey salaatu wasalaam markuu xanuunsaday wuxuu kitaab aan idin qoray keena oo aan dib isu khilaafi doonin hala keeno sidaas uu maalintaas waxay ahayd maalin khamiis rasuulku geeriyooday maalin isniinaad buu geeriyooday imsu ka bacdi si noolaa afar buu si noolaa Soomaa ama saddex طيب afar maalmood dum si noolaa marka maalintii laga jaro macnaha aan isla socono marka Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu rasuulku horta aad buu xanuunsaday waxa la yiraahdo markuu xanuunsaday kadibna waxa la yiraahdo rasuulku markii hadalkaas wuxuu yiri ii keenan kitaab aan idin qoro oo aydan weligiin baadiyoobi doonin Umar bin Khattab wuxuu yiri xasbuna kitaabullah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ay nagu filan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa xanuunsaday sidaas uu yiri hadalka muxuu yiri wuxuu u yiri nabi maxamed inuu u naxo oo u danqado oo waxa la u ishfaaqo oo kitaabka ilaahay باب إن دحياله إلهنا وكل ما فرطنا في الكتاب من شيء إلهي سبحانه وتعالى مكيل رسولك عليه الصلاة والسلام سنة سيبا إن دحت الله نبي محمد حنون كاسا هاي كربلاس نبي محمد صوفر يصادر كتاب كنو يري أرنت صحابة كردي أنت كتاب القرآن كاي سنة رسولك هذا حل هذا ده إنه دحياله إنه وجود في الله إنه آخر السنة أحكامته ده واسعة وحي أرنت صوتها إن النبي محمد قلنا حين النبي محمد قلنا حنون سيدا سوير صحابي كليه oo hadal ku soo celiyay jireen way ku wada waafaqeen Abdullah ibn Abbas waa ka xanuunsan radiyallahu ta'ala anhu iyaguna ay gaalisiin oo yiraahdeen ninkaas waa jaahil sakhiif oo fadhigeyn horeen ku sheegnay saxaabigaas hadalka yiri iyaguna say u galeen annaguna waxaanu leedahay waa turjumaan qur'aan waa sayyidul hufaad wal awwaliin wal aakhirin baanu leedahay tayib marka waxay tahay horta marka koowaad waxaanu leenahay arintaas jawaabtu waxay tahay nacam nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam su'aashu waxay tahay horta ma xanuunsadaayo miirkiisu ma doorsoomi karaa oo qandhadu ma ka tan badan kartaa wax ma iska bedeli karaan su'aashu ilaa wasaas moogti annagu waxaanu leeyahay nacamha ilaa waa bashar maxaa u daliila waxa noo daliila waxa shaacadu sheegtay noo daliila annagu aanu sheegnay shaacaduna ay sheegeen tayib nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabanayaan sakaraatul mawtka dib baa ku dhacaya dhibaatooyinkaas oo dhan baa soo garay way yaqiib aan wax yeel waliba ka ayil bashar sidaas oo kale waliba daliishada marka kutubtoodan ka qaadanayna kitaabka la yiraahdo tafsiirul ayashi mujallada labaad
تضباطني أفر رواية عبد الله بن سنان عن جعفر الصادق وكورني أهل بيتك أئمة أهل البيت وفرس حلي دخل علي ما صوق لي بليه على رسول الله في مرضه رسولك عليه الصلاة والسلام حنوسنية بعلي صوق لي وقد حقيقة كل أمي عليه نبي محمد وال وصح سناموري ومير دور صنع يا دهي وحاد هاي تفسير كذا عياشي أئمة الرافضة بايساسي طيب ماشي ما فهمتين بالله عليكم يا سيدنا يريد ما هاي إنه النبي محمد صوحي شاعر ساوريسي هذا محين وعيبينين عمر بن الخطاب يقول النبي وحنوكا كطنبطي يقول لي كسدرين وحاليا يقول لي اسقوا الصوح صن بيدهن اغمي عليه وراسه في حجر جبرائيل بيدهن النبي يقول ملك جبريل بان هيي isagoo markaa isla markaana suuratu dixyat ibn kalbi isagoo suuradiisa soo ekeysiyey buu meesha fadhiyaa saxaabada ku dhex jiraa ma diidarin waxaa ku jira kitaabka leeyahay amaal tuusi riwaayatu ali ibn sinan isla markaas waxa meesha waxa ku yimid ali baa soo xaadiray nabigu alayhi salaatu wasalaam hay fabaka rasuulullaahi hatta uqmi alayhi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markuu geeriyoonay waa ooyay ilaa ummatan suuxay المفيد wadaadka leeyahay fi kitaab leeyahay al-irshad waxa isna ku yimid sidoo kale kitaabka la yiraahdo ku sugan yahay horta arinta qisadaas aan idinku sheegay saas ku sugan yahay labada kitaab hore aan sheegay isla kitaabkan kale hadda aan marayo ee la yiraahdo kitaab al-irshad la yiraahdo al-mufid uu leeyahay 93 riwaayadu wuxuu sheegay anna nabiy athnaa maradihi markuu xanuunsanayay baa wuxuu yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam dardaarmay aan fidu jeysha usama jeyshkii usama ee aan diray si daayo sidiisa ku fulo 3 jeer buu ku celiyay thumma uqmiya alayhi markaas oo nabi maxamed suuxay billahi alaykum halkaas nabi maxamed maraya asaasi qirsan yihiin nabi maxamed soo fadhiiso kitaab noo qor qalbigaaga ma ka imaan lahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu inagu filan yahay wayna imaan doonta min at-ta'ab alladhi lahiqa bihi bikulliyah dibkiiso famakatha haniyatan muqmi alayhi isagoo muddo suuxsan mu joogay fabaka al-muslimin tiba ooyay wartafaca an-nahibu baroorti baa kor u kacday xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo dumarka muslimiinta iyo dadka kale soo xaadiray thumma afaaqa an-nabiy wa rasuulka alayhi salaatu wasalaam soo toosay fanadara rasuulka alayhi salaatu wa fiir ilayhi qaala xuliituni بدوات إيا وكتف أكتب لكم كتابا لا تضل بعده ثم أغمي عليه كتاب إي كان أنا دين قرأ عمر قرمو هاللي مركو نبي محمد تو هاللي ده كتاب إي كان وصوحي هدنا للسوق هدنا وصوقعي هدنا وصوحي هدنا للسوق هدنا بو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حريص تاسو قبي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كتاب كله بنقول في الداي كتاب كله مناقب آل أبي طالب وحكوا ياله مجلد صدح بقول صدن يلح وحكوا ياله sidoo kale Abdullah ibn Abbas oo ka warinaya anna an-nabiy uqmiya alayhi fi maradihi wa usuhi wa fi nafsihi as-safha macna as-safhada laftigeedana lama hadarat rasuul al-wafat uqshi alayhi wa usuhi فجاءت فاطمة تقبل قدميه وتبكي ورواية أخرى عن عباس بكورنيان ثم أغمي عليه فدخل حسن والحسين يبكيان يقولان يعني waxa la yiraahdo waa muttafaq baan ku nahay haddaan halka ka sii wado kitaabka leeyahay Kulayni Baharul Anwar Riyad Amal li Saduq leeyahay dhammaan way soo socdaan kutubtaas waxay sugayaan sida ay helo sunnuhuna ay qabaan ee ah nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xanuunkii xanuunsanayay waa u suuxay dabeetana waa loo naxay waqtiga iga dhamaaday uga sii badan yahay ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu baasna wuxuu leeyahay kitaabka nahjul balaaqa wuxuu leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa la yiraahdo kitaabkii inoo ilaahay noogu soo dheebay iyo sunnadiisa nagu filan daaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بإذن الله الباري أرنتني بان ينسيد الاستاغينا وذاتك وحور فارح بايد الرواية قراءة القرآن كيدبو يسوون آدو خلدها ولفظ القرآن كابو كتبنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم القرآن كلهم وحوله إضغام يشد وحل هذا هي الفاديسة إن لا توسيو مركب كوباد حان لها القرآن كالفاديسة إسكا توسي آيات كلا كدم بيس إيدنا وحويا السابقون لو من المهاجر والذين اتبعوهم ما شاء يدا هداي مركب هنا وخلدي laba jeer uu ku celiyay intaba uu khalday waxaan leeyahay gadaal ugu noqo ma sugin laakiin ma qorin laakiin tanaan qortay labadaba sheekhu carabkiisa uu ka sirtamay quraanka kariimka waa mucjiz oo la khaldi kara qiraa'at iyo riwaayaadna farqiga u dhaxeeya marba man cashir ka gudin doona biidin illaahi albaari waa qira'a waxaan rabaa inaan ka hadlo bal nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nimankan iyada waxa ay ku dhaheen kutubu ahli sunnati wal jamaa ku qoran in yar kaliya waxaan dul istaagi doonaa kitaabka loo yaqaan muslim wa fi sihah ahli sunnati wal jamaa كتاب الوصية مركا وكهذا لها ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه رقم كحديثكو وحوليهي رقم كحديثكو وحويو وصدحكم يسقاشن يكو اسكسو سعو حديثكو وحوليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس أيال لقورين هيا
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث وحورني عبد الله بن عباس لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنونك يجيريد مركي النبي كسو حاضرتي وفي البيت رجال بأهابوا له فيهم وحا كجري عمر بن الخطاب با كجري فقال النبي الأعظم باوحوري صلى الله عليه وآله وسلم معذر يا رسول الله هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ساسو أديك سنية فقال عمر باوحوري إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم محاكم إذا من يقول قفل قربوا دوية لكم قربوا دوية يكتب لكم هايدين قروا النبي إذن كإيه هايدين قروا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لا تدل بعده ومنهم محاكم إذا من يقول ما قال عمر وحأويري فلما كثر اللغو مركو فربطي قيلذي والاختلاف qayladii iyo ikhtilaafku waa matniga bukhaariga iyo matniga muslim kasaasi isku waafaqsan yihiin markuu farabatay qayladii iyo buuqi cinda النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله وحول قوموا عني فقال عبيد الله وحوله جرى فكان ابن عباس يقول كيدها أيها إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم مسند أحمد ابن حنبل رقم كحديثك وحويه ورقم كحديثك وكن سيدات بقول صدن إيا أفر يسوون وحولاه لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجعه نبي وحول أكتب لكم كتابا لا تدل بعده فقالوا وحيد هذين ما شأنه ورنين كان شأنه يسمحوه فقالوا وحيد هذين ما شأنه أهجر نكن وعنواش وهذه الكلمة وحولها إنك لو يقانو أبو يعلى الموصلي تنصب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلمة ده وحلو نسبية قالوا والعميمة هي موقتها النبي كان وعنين ولا وحي وحلو نسبية إنه يهي عمر بن الخطاب halkaa waxaa kaaga qof ilaahay rumeeyey oo rasuulullaahi maxamed rumeeyey sallallahu alayhi wa alihi wasallam inuusan dhahaynin waa majnuun waayo gaaladii baa waxay ilaahay u yidhi wamaa saaxibukum bimajwaaka faqaaluu waxay yidhaahdeen maa sha'nuhu ahajara ahajara waxaa weeyaan waa nin waashay nin waalan weeye ahajara bimacnaa annahu waqaca calayhi alhadyan walmajnuun nin tagay waalan weeye nin wax laga qori karo oo dardaaran qori kara ma aha waan arki مغنون والا ويا أهجرة إيو مجنون ويكليهن لفظك أهجرة وحق كتوسن هيا معنى المجنون بو كتوسن هيا نون والا عمل أيو كتوسن هيا أوكي وحور ولي بفيري قال سفيان وحور يعني واحد استفهموه ورما فهم يسان وح أولاه وروح أولاه ما فهم يسان إنا لله وإنا إليه راجعون ومع ذلك يقول رجل لابد أولا إنه قفك أمرق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهتم لعمر وأبو بكر أنت أوسن عمر يا أبو بكر أمرق مركك وبتغفوا محل غربة إنه أمرق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سفيان باوحولاه استفهموه فذهبوا ويتجي أرنك إسقى قيلدي مركي بدتي أي النبي ويجيبوا له قوموا عني والأرض إضافة رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كأيدا أي إسود بيسي أحمد ابن حنبل مركل كتاب كيس مسند كه وحكور إنها رقم كحديث وحويه وصدحكم بقل لحدا يشن حديث كإسقى وحولي حدثنا وكي حدثنا مالك بن إسكاسو سعو لفظ حديث كواقع عبد الله بن عباس بالجور إنها وما أدراك ما يوم الخميس وحوليه محاك أجيسية مالين خميس تهي waxaan fiiriyay buuri ninka loo yaqaan Abdullah ibn Abbas waaba isagoo ay daadanayso indhihiisi oo nidaamkiisa wajiga uu noqday uu cadaaday oo kale sidoo ilinti ugu socotay oo kale markaas la yiri maxaad la ooyaysaa nabiga wuxuu waxaan la ooyayaa inuu yiri ituni bil lawhi wat tawati wal katif aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu abadan faqalu waxay yiraahdeen ayuhjar inna ar-rajula yuhjar ninkan waa nin waala nin wax laga qori kara gabi ahaanba habay yaraatee ma aha waxaan rabnaa marka inaan tusno ma arinta kaliya maya waxaan dul istaagi doonaa labada ay cinda ahli sunnati wal jamaa u yaqaanaan shaykhayn ka Abi Bakr iyo Umar naftoodi iyagoo ka maqraati ka ahayo in ay dulmiyeen bi shahadati الرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للبخاري ومسلم ما كأرك دونا شهادة الشيخين على أنفسهما حديث البطانتين بان مركو ردول استاغي دونا النبي والبمرك اللي صودر البخاري وحوش حديث البطانتين إنه رسول والبقولها بطانة تأمره بالمعروف وتحطه عليه وناقة كبورينيس يو بطانة تأمره بالشر بطانة كبورينيس شركة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال أتمت مركاسي وحدهم ويلشا الندن كومين الراعي سيد بخاري كقرن وحكى لكومين دوران إلا جاجي كو دورتين نبي ويرى ورحول أبو عمر بو يرى وعمر ورنك نمان كان نوع عاسي إليه مركاسي وارون أبو بكر بو يرى وأبو بكر ونمان كان نوع عاسي إليه نمحك جرى وارون فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي أي آد حناقي آد بو حناقي إذا وحد أركت هلك أيضا لبدا إننا أهين بطانة حسنة
بطانة حسنة إننا نهين إذن قلنا لو يقانو علماء المارقة أم علماء الوهابية وهذا قلنا أن لفظ دناء أنت بدن واحد مدى أحاديث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا ندل استاجين عمر بن الخطاب النفتي سله أيان أركضونا وتمنيها إنه دجان نقضه هذونا أبو بكر هين مكة ونبغى صاحب له من بطانة وهين محو لسه هجروا كل يقدر صاحب وقتنا هيجي قاعدين لكن وكجواب مسألة أيضا مسألة وحوي صاحبك وحمد زيادة صاحب نمو هي اتباع باك الجرو صاحب وحب مجرو إله القرآن كيس كريم كوحكوله هو ما صاحبكم نبي محمد قال ذي بيقوله صاحبك رسول الله محمد بمجنون معها نبي الله يوسف إله بجل وعلا وحكوله هي قرآن كوتلمامه هيو يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار صاحب النمو وح مكانته إنه أبو بكر هاي إن كان اختلاف بابك جرى في كتب أهل السنة والجماعة عبد الله بن أريقط بو بهابا مدة كلنك إسجى صاحب كلله أبو بكر نن إلهي نحريست كهو جيب على كسوان سكينة دينا رسول الله محمد إلهي كليه كد جي أنفيرنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين وحوله حيث أوجر كان رسولك إلهي بأوجر جاري مركي أو لصوصاري قال ذي أي صوصارت رسولك لبا متكمدنا أو أها إذ هما في الغار إذ وقت أي كسقناين غارك أي كسقناين إذ يقول الوقت أولها الرسول كل صاحبه أولها صاحبك إلا وما صاحبكم بمجنون أنت وقال له صاحبه وهو يحاوره قلبه كان وصاحبه أوها نبي إلهي سو ما ذلك مركا وحول لا تحزن مسلم كان إنه سن مرجن بان أركدونا أنفيرن دونا لا تحزن بقولها مرجن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه سكينة إلهي كدل دجي رسولك كليه مؤمنين إلهي سكينه كدجي مؤمنين أولا أو محي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين بدن عليه على رسوله وعلى المؤمنين قرآن كالوس وشاق مؤمنين لكن قف كان وقفوا إلهي سكينة كحر أي هل كان كسوغان بل أنفيرين هذا إذ يقول لصاحبه لا تحزن بول إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه رسولك كتشي سكريو إلهي كدجي فأنزل الله سكينته عليه وأيده إلهي وحكوح وجه الرسول إلهي ميوديه واي إذ يقول لأبي بكر لا تحزن إلهي عدك فسيح بدن مالي سيدا أزيد وكالو عزو حزلها لكن كان وعبد الله بن أريقط بن بكر سيدا أحمد بن حنبل أعدي ووحويا أعدي نك اللي يقان أبو عبد الله الحاكم أعدي أو أي مفر بدن أي عديين أبو بكر فما بهم في جنب أهل السنة والجماعة لا تحزن بولي إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه رسولك كليه إلهي كدجي وأيده إلهي رسولك كليه الحوجي بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا هلكا وحا موقته انت بدن أباطيش يا أقاويش كسوغا في كتب أهل السنة والجماعة يا فهم القرآن الكريم كو أيسن فهمين إنه هلكا كم موقته هذا بقى بخاري وحصوص عرفيري أخرج البخاري في صحيح باب مناقب عمر بن الخطاب مركو كهد لهي لما طعن عمر مركل الدري أمال أو دري نكي لديه جري أبو لؤلؤ جعل وحوق دق لي ألم إنه حنوسان هيو عبد الله بن عباس با وحول اسقو ارغغ حسن بو اركي وحول وربالكي ان جعلا النبيدك اها بل اي كان ان هورتا كدفتay نبيدكي بو كدفتay بالك نبيدكو wuxuu ahaa bahal khamar amal ah nabidka marka halkiisa isaga ka soo daatay idan wuxuu tamaniyi jiray marka isagu oo mar waliba uu tamaniyahay waxaan isku furan lahaa hadaan maanta xoolo haysto xoolahaygaan isku furan lahaa xoolahayga ayaan isku furan lahaa buu وحنا أقنها إلهي إنه له ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر أوقفك مؤمن كأوسن مرجم بجبي أهامبا هل كان مرجي أيا كم مغض إخوتي في الله هل كا وحكم مغض نن مرجي أو مرجدي أي قلوبتي سكبضتي أيا كم مغض قفك مؤمن كأنا إنه سن مرجين أيا دول استاجد دونا وقتك مرحبا إنه وحي يقدر ماذا أنا وبالله توفيق وصلى اللهم على محمد العالمين وعلى آله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta wadaadka markii hore waxaa jirtay su'aal aan weydiiyay su'aalihi kamuusan jawaabinin waxaa kamid ah qisadii ahayd nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baan fiqigiisa ku halaagsanay xagee ku taallaa waxa la yiraahdo wax ereyga kelimada ku saabsan waxa la yiraahdo wuxuu kaloo dhahay ma garanaysaa abubakar cumar baa wuxuu yiri ahajara buu yiri buu dhahay waxa la yiraahdo waa iska suga waqtiga intaad qorataan iska suga de mawduuca laakiin qofkii inuu ka jawaabo weeyaan maxay tahay kelimada ahajara maxay tahay طيب هداي تاي waxa la nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waaqiciisi iyo uu yiraahdo maskaxdiisa baa ka maqnaatay xanuunka ka xoog batay sootaan hadeer sugay ma iyagu inay sheegeen iyaga iyo markay saas leeyihiin maxay ku kala duwantiin balse si kale hadaan u yiraahdo waxaad ogaataan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu bal arha ka sugo fi kutub ahli sunnah bal arha ka sugo sheecada u tiiriyay oo Umar bin Khattab waha bal waxa sugan inuu ahaa ahlu beedka qaar kood inay meesha ahaayeen kelmaddu inaysan qaaluubun isaga isticmaalay waana sax qaaluubana qoran waxay yiraahdeen dadkii meesha joogay waxaa joogay Cabbaas adeerkiisa
cali bin abi taalib baa jooga radiallahu tacala canhu waxaa joogay markii dambe kutubta shaacada waxaa ku qoran xasan xuseen baa la keenay mataqaan cumar bin khadaab baa joogay cabdullahi bin cabaas baa jooga xadiisii warinaya dadkaasoo dhan baa waxay yidhaahdeen nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xaduu xaalkiisu ma sooxay hadday run sheegayaan horta si kale haddaan su-aalaha nooc soo kale haddaan dhigo su-aasha waxaan weydiinayaa horta waxaad ogaataan iyagu intaas waxay isleeyihin war kamaysan haynin kutubtooda wax ku qoran aad ku ceebaysan cumar bin khadaab radiallahu tacala canhu waxaan idiin soo sheegay meeqa kitaab baan idiin soo sheegay markii dhaweyd oo ay saa ugu qoran tahay laakiin su-aal kale aan weydiinayaa cumar waxaan idiin sheegay inuu nabi maxamed geeriyooday isniintii su-aashan waxay ahayd khamiistii cumar bin khadaabna waxaa sugnaatay markii habeenkii la gaadhay inuu dadka caraabi ku jiray meesha ka tegey ahlu beytkii baana soo hadhay caliyu bin abi taalib oo rasuulku sadag u ahaa adeerkii cabaas cabdullahi bin cabaas baa meesha toognaa maxay u sheegi waayeen oo odhan waayeen hadday run sheegayaan abubakar haddii waa naga tegay noo sheeg aan qoranay hadda noo sheeg su-aal kale markuu cumar saas yidhi ma waxay leeyihiin nebi maxamed baa baqada istaagay ma nebi maxamed alayhi salatu wasalaam bay durayaan miya haddaysan hawshu saxayn oo dadkaan la isku wada waafaqinin yacni ma nebi maxamed waxa ku leeyihin nin fulaya ahaa miya mise waxay leeyihiin maya nebi maxamed isagu wuu xanuunsanaay wuuba suuxsanaay waa say u sheegeen laakiinse hee ahlu beytkii baa baqay caliyu bin abi taalib iyo cabaas baa ka baqay cumar ah markuu hadalkan yidhi yaa ku dhici waayay miyay leeyihin hadday run sheegayaan maxay su-aalaha uga jawaabi waayeen xadiis kale balse weydiinayaayo cabdullahi bin cabaas radiallahu tacala canhu nafsi maalintaa wuxuu warinayaa xadiis saxiixana wuxuu ku warinayaa inuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ii keena waxaa la yidhahdo kitaab ii keena iyo mataqaani khad aan wax idinku qoro aktubu lakum kitaaban laa tadiluu bacdahu ثم ولانا قفاه wuu naga sii jeestay rasuulku alayhi salatu wasalaam ثuma aqbala ilayna markaasuu soo fiiriyay faqaala wuxuu yidhi yaa aba allah walmu'minuuna ilaa abubakar allah iyo rasuulkiisuba way diideen abubakar cid aan ka ahayn way diideen xadiiskaas macnaha waa xadiis aad taqaaniin oo kutub taqaan waxa la yidhaha mustadrak xaakim iyo qayrkiiba ku sugan marka ujeedada iyo danta macnaha ay qisada soo bal macnaha bal fahansiya dheh kalimatul hajr haddaan macnaheeda wax idinka sheego waxaa ka mid ah qofku misaal ahaan oo kale inuu macaanaadka iyo dhibka haya inuu maskaxdiisa ay la tagto kow inuu dhintaa macnihiisa ka mid a labo wuu waa shay cid ku macnaysa bal macnihiisa keen kutubta luqada balaa ka keeno taas haddaan intaas kaga tago su-aalahaas waxaan rabaa inay ka jawaabaan waxaan u gudbayaa waxa la yidhaahdo waxaa xaqiiqo ah waxaa la yaqaana abubakar radiallahu tacala canhu iyo cumar iyo cuthmaan inay ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwii u dhowaa ee qaraabadiisa ugu dhowaa ahaan jiray la saaxiibi jiray qaraabo ahaan wuuna la wada saahiray kulligood qaar isagu ka guursaday iyo kuwa uu guuriyey saddexdaa imaan baan ka hadlaya hadday la socdo haddaad afartaba tiraadaan dee waa khayr waa cid uu ka guursaday cid uu guuriyay bay u qaybsan yihin ayib marka maxaadna leedihin marka ma waxaadna leedihiin macnaha maysan ahayn kuwa istiqaamo haysoo toosan fii rasuulka xayaadii markuu noolaa iyo markuu dhintayba munaafiqiin bay ahaayeen miya haye mise dad toosan bay ahaayeen su-aashaas waxaa raba inay ka jawaabaan markuu dhintay iyo markuu uu noolaaba haddaadna leedihiin maya markuu dhintay kabacdi bay munaafiqoobeen aayaadka qur-aanka maxaad kaga jawaabaysaan tu kalena maxaad kaga jawaabaysaanu bal maxaad naga leedihiin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam soo ma ahan ilaahay subxaana watacaala inuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam intuu noolaan iyo intuu dhintayba munaafiqiin bay ahaayeen mise maysan ahayn munaafiqiin baadna leedihiin hadday munaafiqiin ahaayeen ma ogaa oo wuu iskaga mudaahanayn jiray mise muusan ogeyn baadna leedihiin oo ilahay waxyigiisa halkaa khalad baaba kaga jirado niman munaafiqiina maamulan jiray bal su-aashaas ka jawaaba haddaad tidhaahdaan wuu ogaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiinse may wuu u mudaahanayn jiray waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa qadxiga iyo ceebaynta ugu weyn ee la gala weeye muxuu dhahay shaacirkii fain kunta laa tadri fatilka musiibatun wain kunta tadri falmusiibatu acdam haddaadan garanayninna waa musiibo weyn haddaad garanaysidna dee waa jaahilnimo iyo wax xumayn iyo gaalnimo aad u bareedhay falmusiibatu acdam kasii weyn ayib haddaadna leedihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam gadaashiisii markuu dhintay bay munaafiqoobeen haddaadna leedihiinna arrintaasuna way kasii daran tahay dee isla maamaada hadda aan sheegaye bimacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee allihii u ballan qaaday an yudhira diinahu cala diini kullihi baa waxaad leedihiin mataqaani khidlaanay oo ka baxay oo diintii nebi maxamed waxaa loo farageliyey dad munaafiqiina billahi calaykum bal su-aashaas noocaas oo kale ka jawaaba su-aal kale haddaan sii wato waxaad ogtihiin kulligiin waxaadna leedihiin abubakar iyo cumar iyo cuthmaan muslimiin maahadna leedihiin haye ahlu beytka unbaa muslimiina ahlu beytka oga xadiistii baa laga wariyay bayna leeyihiin inay ahlu beytka macnaha ka aaminsan yihin rasuulla nebi maxamed ka dambeeyey maalinta horaan ka soo hadalay hadda waxaan ka hadlay waxaa weeyaan iyaga way ogaayeen bayna yidhahdeen waxaa sugan oo kutubta sheecada waxaa ku taalla cali radiallahu tacala canhu wa ardaahu markii uu faaduma ay ka dhimantay wuxuu guursaday dumar kale oo badan caruurtiisa waxaa ka mid a cuthmaan bin cali bin abi aalib cuthmaan bin cali bin abi aalib waxaa u dhashay umulbaniin bintu xizaam baa u dhashay ayib waxaa kaloo caruurtiisa ka mid ahaa abubakar bin cali bin abi aalib waxaa dhashay leyla bintu mascuud addaaramiya baa dhashay caruurtiisa waxaa ka mid ah cumar bin khataab bin cafwan cumar bin abi aalib baa ka mid ah cumar bin abi aalib baa ka mid ah radiallahu tacaala canhu macnaha cumar bin khataab waraxmatullahi tacaala calayhi maadaama dee uu taabici ahaa waxaa dhashay marka cumar bin cali bin abi aalib waxaa dhashay umulxabiiba bintu rabiica ayaa dhashay ayib su-aasha kale aan kusii dare
waxa la yidhaahdo nin miyuu nini caruurtiisii ugu jeclaa cadowgiisii cadow u ahaa miyuu ugu magac dari karaa billahi calaykum qof caaqil ah tu kale ma ogtihiinba horta caliy bin abi taalib radiallahu tacaala canhu wa ardaahu inuu yahay awal qurayshiyin oo caruurtiisa laga helo abubakar cumar cuthmaan arrintaa ma ogtihiin bal sheecaha ka jawaabto ayib hadday cumar iyo abubakar cadow u ahaayeen waxa la yidhaahdo yacni cali muxuu cali ugu magacaabay caruurtiisii acdaadiisii arrinta aan idin soo sheegay waxay ku taallaa waxay ku sugan tahay kitaabka la yidhaahdo mucjama khuu'i wadaadka odayada shiica weeyaan 21 juska ah 66 ayib waxay kaloo ku taallaa kitaabka la yidhaahdo kashf alqumma fi macrifati alamal licali alirbili bay ku taallaa mujallada labaad 66 bay isagana sidoo kale ku taalla sidoo kale marka yani waxay kaloo ku taalla irshaad bay ku taallaa kutubtooda dhan baad ka soo helaysa arrintaas waa arrin macnaha aysan ka muransanayn cali radiallahu tacaala canhu caruurtiisa inuu khulafadii ugu magac daray muxuu ugu magac daray billahi calaykum xub allahum sooma xub allahum sooma marka adigu tar waladkaaga markaad nin ugu magac darisid ninkaas inuu haliyay ku leeyahay sooma idinkaan idin weydiinaya waa hawl la iska ogyahay ayib sheecadu waxa la yidhaahdo uma hayaan ilaa iyo hadda xal abubakar iyo cumar iyo cuthmaan gaalaysiinta ay gaalaysiinayaan bal hal adnaa daliil min kitaab illaahi aw min sunnati rasuulillaahi oo iyagay annagoo aan isku waafaqsannahay bal ha keenin anigu waxaan keeni inay abubakar iyo cumar iyo cuthmaan kutubtooda taayada waxaa ku taala inay khulafaa uraashiduun inay ahaayeen jacfar saadiq baa laga wari waa idinku le abubakar iyo cumar atawallaahumaa waan ka weli dhigan markaas islaam baa weydiisay waxay ku timi maad ka weli dhiganaysaa markaasuu nacam atawallaahumaa waan ka weli dhiganayaa rabbiga maxaan u idhahdaa bay ti markaan la tago in adigu amartay markaasuu haa anaa ku amray nacam rawdatulkaafi mujallada 8 101 sidoo kale wuxuu tafsiir qummi buu ku yaala hay nin kale baa wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa mataqaana rajul min ashaabi al-baqir تعجب حين سمع وصف الباقر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنه صديق يعني وحول يا مركو كده هي وإمام من أئمة أهل البيت أو أي شاعر يكون عبد الصدان يقع يستانا نهل الصناع أبو هاي مركز حيكون أبو بكر صديق وكم مغلي مركز يكون مساسة كتل ما مسينه صديقها مركز يقول باقر واحد نعم الصديق ويان فمن لم يقل له صديق قف كان صديق كله مياه فلا صدق الله له قولا في الآخرة في الدنيا والآخرة قف كان صديق أرنين إلهي إسلام لماذا كما أقبل مرافق نمها كلنتو حي كم ترتيب سائرة قول إلهي أمرهم أيوه طيب بالله عليكم الكورة معناها سمحت كي جواب سهل يعني جواب ما هيان حيكون على كشف القمة يكون على بجلدة صدح بقول إيه اللي إحنا بيكون على أبو الحسن علي بن أبي طالب وذكرنا سندي صوماه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه وعن جميع الصحابة وحولي إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها وحنو أرقنا أبو بكر إنه وحق نهبضين خلافة إنه لصاحب الغار والثاني اثنين وإنا لا نعرف له سنه ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي نبي محمد النور بدها لو دبت كذا من نبي محمد بالله عليكم منافق دبت كذا ليه بل إذنكم دتك كورما دت كان بالله عليكم هرت بل أنت علمي هوشن هنوت شوين دت كان محيين هرت هاي وحكي على شرح النهج لابن أبي الحديد لابن أبي حديد مجلد كواد صدح بقول صدني يلا بيكون تعالى يعني هم مسي وذ كريو كافي وأي قرن أو وحي قرن وحل يا متقانا يعني بحر الأنوار بأي قرن أو كتفر بدن بأي قرن محي أنت كجت جوابية طيب مثل هدان وجود أبو بكر يوحي شيخ الشيعة أبو بكر يا عمر إن اللي بقى على هاين حدنا وحن هلنا إن وحل يا وحن كريو علي بن أبي طالب معصوم أبوها معصوم بوها وحن كجت جواب حالنا هاي معصوم كي وحل لي هذا متقانا عروتي سيبا كجورسدي أو يسجى كجورسدي أو يسجى أجوري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب قبل يسوق جوري كده وان كون نكاحي ما حدنا مع ذلك هو معصوم أنت هذين ما معصوم خرج ما قال معاه ويا لا صعدة مع علي بن معصوم هين مياه من أبو بكر من نيكلي هذا من عمر مسلم أو إمامك مسلمين ترى بل سوافجية إما ويان خلاص هذا حيته هاي وقت بيقدر ماضين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى بأمير كمؤمنين تأوي وقت يعني ويقول يري هاي موضوعي ويوفر بديه أدلة أنت مرة نقعد ودارتي مركا وقت بيقدر ماضي بالله عليك ويقرأ على هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ سؤالها هم مركو ركت جواب كدب نقول إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين بإذن الله الباري سؤالها سادين شكتان كهر مري ولو أن ربي أحاديث آذو فربضانو إيتا الله إنان صوجفو وفي كتب أهل السنة والجماعة روايوينكي أسود للشيء دي بان ربا هورتو إنان دول استاغو روايدن أسود للشيء أبو بكر علي بان محو أغم مقعابي أولاد ديسا أبو بكر يا عمر يا عثمان مسمه وحما كانوا قبي أهام با وحضر كيسا مسمى نين علمه سيزيد ليرهدو وآل بيته وموجود وقاتل الحسين
waxaad arkaysaa nin ilmihiisa la yihahdo cumar binu sacad waa qaatilu imaam alxusein taa iyadaa dhibaato male haddana aalubeyda musama marka wax uu keena haba yaraate eh oo ceeb ah gebi ahaanba ma jiro midda iyada ah okay riwaayada kale dadkan khulafaa rashiinteed cayaysaan xilliguu nabigu noolaa aad bay markaa nabiga waaga dhawaayeen tayibiin bay ahayn waa u guurinayay idinka maxaad markay noolaayeen bay xumaayeen uu nabigu noolaa mise markay uu dhintay bay xumaadeen بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شريعة الإسلام كقفك إنه كتاب القرآن كتتبعه ودل استجا يا واجبة أنبياء إلهي وحيك جورسن جرتي يا رسول إلهي بقى قالك جورسن جرين وحيك جورسن جرين نصارى دي وحيك جورسن جرين قالك كلا أو قال عادي أبى لقى جورسن جري عد والبا أما صلح هذا إيك جورسن جرتي نبي الله اللوط أو كلام دل استجا دونا يا نبي الله النوح أو كلام waxay ka guursadeen labadooda naagood waxay ahaayeen gaalay ahaayeen ilaahayna midal buu ka keeno daraba allah suuratu tahrim daraba allah mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuuh wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin munafiq nabi ma la joogi kara mise lama uu joogi kara rasuulka ceeb ku tuujiri masalada iyada ana waa masala basiit ah aad u dhib yar nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam hullaag muusan ahayn meel hullaag ka muusan ahayn kuwa xalaaga muusan ahayn kuwa wax laayana muusan ahayn ilaahay baa wuxuu yiri fa bima rahmatin min allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر معركدي الذي جري غزوه ذات الرقاع نبينا صلى الله عليه واله وسلم يسحب دغال bay galeen markay soo noqdeen nabigeenu wuxuu yimid god meel tog ah oo di shawka ah oo qodxa u saaxiiba geed buu iska seexday ragga uu maanta dhan la dagaalamaya nin ah ayaa nabigu seeftiisa meesha surtay intuu siibay oo dul istaagay yiri maxamed oo iga ka mancini nabigeena soo raxiim u ahaa ma rabaa nabigan laleeyahay bambu tuuri jiray oo waxbuu dili jiray oo kumanaan buu isku qarxin jiray ma aha rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam hada huwa kidb wa nifaq wa kufr wa bu'd an illahi jalla wa ala ninki markuu gaalki seefti uu soo siibay nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam masala la yaab ninki wuxuu yiri ilaahay baa iga ka mancin ninki baa seefti ka dhacday rasuulka qaatay wuxuu yiri iga ka mancin wuxuu yiri kun khayr aakhidin bisayf nabigeenu wuxuu yiri orod iska tag saxaabadii buu soo yeeray wuu tusay raxmadiisi nabigeenu sidaas oo ahaa ilaahina quraankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghalid alqalb lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum إلهي بالقرآن كيس كريم كاساكو عدي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي إنه ما أوصنا هين نم وحلاقة وإحنا الله منافقين تأهريره سكبوا حذو ومدك تسافر ديو وبدح تسافر ديو أيوسن هل من أوقع عن قادين ويا عفس كيس أيابنا القرآن الكريم كمان عدين مركب حلال هاي قال يا منافقين بتقولي دكيسي وقال لك ما منافقين تي قال ما بجرين قال منافقين بجرين منافقين أيهريره سكبوا حذو القرآن الكريم كمان عدي أو سورة التحريم مركب قال كينا waad ka guursan kartaa wala loo guurin karaa ambiyada ilaahay sida ay ahaayeen oo kale hadii uu ninka nasaara yahay de shariicada islaamku ma diidin gabadhiisa aad guursan kartaa hadii uu yahuud yahay gabadhiisa baad guursan kartaa hadii uu munaafiq yahay waad ka guursan kartaa intaba quraanka kariimka baa cadaynayo aayaadkii aan ku keenay baa daliilku waa tayib su'aasha saddexaad wuxuu ku diray sheekhu Jacfar wuxuu tawalli oo imaamiyada waaweyn ee kamid ahaa imaamiyada shiicada oo tawalliyay marka Abu Bakar iyo ragii khulafada إمامكنا محد هذه الرواية وحان ربا إنام كتسو كلها ضعيفة وكواس الحر العاملي كتاب كيساو وكو ضعيفي إمام الكليني يسوون وو ضعيفي الإمام نيكا لو يقان مجلس يسوون وو ضعيفي نينكن قدام بيي وحويا من مراجع علماء الشيعة كمدها والذي جرس السيد أبو القاسم الخوئي يسوون وو ضعيفية قبي هامبا الرواية لم تثبت بل إنها ضعيفة علماء قار كنا وحيلهم والكذب المخترع الموضوع بينت الله أبورتي إمام جعفر الصادق اللون نسبية أي كمتها طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو فري أبو بكر إنه صلاة تكي يسوى النور ما نين منافق وقال أبو دتك رسولك يقول تكي صلاة دي اسمها ساعة أنا وسيدا نوم وقتو نينكاسي وحوها نين توه صلاة دبوبة هيي نبي جينا مركو صوغ على نينك وصاع على قدال ويا نبي جينا وحاسوان رواية في كتب أهل السنة والجماعة كسوان إنه يرى عبد الله بن عباس دتك تجي وكون دبتو كذي إنه يرى نبي جينا دتك تجي نينك اللي يقان إيشك معاذ بن جبل وسوى أصحابه كسو اشتكوا بركود لأن صلاته نقول دايريا النبي يقول وكده بتو كذا روايين كقاركود أي سوق هيان لكن نين كان وحوها وحنو دعارة ومركو النبي صلاة وسوق له ويمدبا نين كبيه سوق قطو قدال وسوق عروها مركا رواية إذا واحد أرتني كاسنين وحبوبها يوها ونا مركا دم الرسول كو يمنا ولا قبتي وحي وبوبها هي طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومد إسلام كاوي دور نايت نبي جينا وحان رمنا ولي ما
tiiba أذان كهري طبعا بعض هيدا موقت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي في الله، رسول كان هل حج بحجي حجك وحال به جري حج الوداع. نبينا مركو كسر لابتي حجك وحو يمد مال لجدا هذا غدير أخم بين المدينة والمكة. صحابتي بو نبي سو جمعيه صلى الله عليه واله وسلم غور ظهر حديث كايسغا وحاورنا النسائي وحاورنا الترمذي وحاورنا الشيخ الألباني ومن علماء الوهابيه كمده يا كتاب كيس السلسله الصحيحه كسو قادنيو كتاب كيس لو يقان إرواء الغليل نو كسو قادنيا سندك او كله هنا دمانتين واد كسو باري كرتان نبيgeenu صحابتي بو halka ku jamciyay umada wayba doornayd oo nabigeena horay buu badad ugu doorayba markuu saxaabadii nabiga halka ku jamciyay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu as-salatu jaami'a saxaabadii oo dhan baa yimid 100,000 oo saxaabi يا هلك سو استاكت النبي وحو سؤال كبلابي ألست أولى بكم من أنفسكم ورئنا نفتي إن إذن كأوليس إنها مشاكل إذن كجرو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وحال يقول بلى يا رسول الله وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف تصديق اعتراف بيسدا كل هاي النبي مركو كل العلي فأخذ بيد علي هلك سو قبت النبي فمدها إلى السماء قعنتو كر ugu taagay nabigu ban uu isla taagay wuxuu nabigu man kuntu mawlaahu fahada ali mawlaahu qofkan anigu wali imaam aan u ahay imaamu ali ba imaamkiisi ah waa riwaaya cad oo meesha tahay ummadda inay waxan kaleba wax qasbi iyo lagu boobay waxaana dul istaagi doonaa oo arinta aan ku cadayn doonaa saqiifa bani saacida wixii dhacay nabigeena markuu geeriyooday yaan rabnaa bal inaan sugno arinta ayada markuu yiri nabigu saxaabadu bitasdiq waxa u tahaniyadeeyay markii la doortay Umar ibn Khattab wuxuu yiri أصبحت مولاي يا ابن أبا طالب بخ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة دور شر رباني أبا دعوة غزالي مسألة هداي أنك تجيب أجرته ويدينه إمام النووي حقيقي يري في شرح صحيح مسلم وحان ربا إنا كيانو كتابك يا ماشي أي كذا قرنتها أرنتها أيدا سي أمد إسكولا أركان وان هالمامي تاسنا إنا سيفي عن أسو عدايو أما أن صدر إن شاء الله أسو كوبيود أركتان وتكرر عدم من دونها يا مسألة وان هالمامي markuu u tahaniyadeeyay imaamu cali oo doorashadiisa ay dhacdo doorkiisa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal aad fiiri wuxuu yiri أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نسره واخذل من خذل بالنبي إله على قفك أجرجار قفك النصرية أو النصرية قفك راعنا إله حق تسي وضداس النبي نوجته صلى الله عليه وآله وسلم وحكسوا المسلم ترمذي ابن ماجه oo ninka loo yaqaan albanina oo lafdi kale ku wariyo oo khalifatayna nabigu inuu nooga tagay labo inni taarikum fiikum athqalayn imam muslim kitab allah wa itrati ahli bayti ma in tamassaktum zaid ibn arqam bahadith laga warinaya ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab allah wa itrati wa ahli bayti wa lan yatafarraq kitabka quraanka inaan jeclaadaan hoosta kuwa takliya ma aha وأنا أكو عمل فلا حكمك هل كان كيالو إن أكو عمل فلا واجب هو ولن يتفرق أبو النبي يقول مكة لتجه حتى يرد علي الحوض لبض النبي أسو استاجه يا مرك أبو بكر يا عمر النبي يقول مركو جيريودي عمر بيميدو ما دام النبي لا آيات انقلاب لي هذا ماشي يميدو أبو بكر بيميدو آيات بو أغريو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنك ميت وإنهم ميتون كبها لقاته والبودي سقيفة بني ساعدة الآذي وسعد بن عبادة قولي جيسا وحلقوا مقنامة قانا هلك أيضا تضبا مع الموت روايوينك هل رواية أمانتها إيسوغو إنو أبو بكر النبي قاسي جنازة دي سنة كنتو كذي لا يوجد أبدا كمين تكنين مصيبه وحوي هدين من كان مؤمنين رب أيهين إلهي كمونا حرمانيين آسيتانك رسول الله محمد نقيتانك رسول الله محمد تجهيزك رسول الله محمد إلهي كمونا منعيين انت بإلهي بقى كمنعيين تجهيزك فاطمة أو بمتن بخاري كقرنا وندول استاجدونا إلهي بقى كمنعيين أهرنت هسا هل كامرك ضد بعد عادي سعد بن عبادة على اللعنة عمر بن الخطاب على اللعنة لعن الله سعد كذا وكذا دقال بعد عادي قب يقع مركز دم أبو بكر بالي رواكن تضبية طبعا بقى روايين كقاركود وحين تضبية طبعا ما هي سجال يا طبعا بقى هاين مهاجرين تنا وحي هاين سديد انت كان وحي هاين انصار بقى هاين هل كاس على لوسو دورت ابو بكر بين انا وخليفه كبيه بولد الاستوى قبل الرسول كنت كان هيابر بالإلهي بان كوجود دار شيء إن كان نوع عاص أبا أنا قال إخوان إن الله إسلام بوهجان وها وخليفة وها وهل يقبل ذي عقل وذي رأي وذي فكرة سليمة مرنا ما أقبل كرو طيب أرنتها أيضا مركز عادي فاطمة هدنت في وحيت فاطمة وروح الربا أبو بكر ودحلك أباهي مع الربا وحول الرسول كان كلجي كم مقلي فيري كلجي أنا وحن النبي كم مقلي النبي أوله إن معشر الأنبياء وحويا لا نورث ما تركناه صدقة وحن كتجنا صدقة نلا ما بدحلبا جبي أهامبا
ورمييتن waxay tiri Faadima khudbad dheer bay halkan ka jeedisay ilaahay miyuusan dhihin bay tiri jalla wa ala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd waxay tiri yusiikum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn wa lakum nisfu ma taraka nabigeena isaga baa wax dhaxlayba aabihii buu dhaxlay oo uu ka dhaxlay Zayd iyo Umayma hanti bay u ahaayeen adoomay ahaayeen nabigeenu isaga mawaalidiisa bay ahaayeen isaga ayaa xurriyay isaga ayaa dhaxlay bal fiiri nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam halka waxa kaaga muuqato waxan ay qoladan warinayaan inuusan ahayn wax waafaqsan kitaabka ilaahay jalla wa ala Faadima raba marka in loogu daro hadhow aan dhamaystiro bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waan ku yara dhaqsanayaa wuxuu yidhi waxa la yidhaha daliil uma aha nebi maxamed inuu nebi ahaa maxaa sheegaya abubakar iyo cumar inay ahaayeen dad wanaagsan nebi maxamed calayhi salatu wasallam inay la xidhiideen daliil uma aha buu yidhi waxa la yidhahda waxaan idiin sheegay inay kutubtooda ku qoran tahay ku qoran tahay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam duuritaanka ay durayaan baan horeyba waxaan idiin sheegay mataqaana waxa la yidhahda inay xukumeen nebi maxamed calayhi salatu wasallam naartu galaya awalu man yadkhulu naara waatan dees maalintii horaan ka hadlanay macnaha maxaa dhacay waxay ku leeyihiin wuxuu guursaday abubakar iyo wuxuu guursaday iyo wuxuu ka guursaday cumar buu ka guursaday marka macnaha waa qadxiga iyo xadgudubka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ka socdee waxa la yidhaahdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay in naxariis badan buu ahaa oo gaaladii wuxuu ku dan jiray ilaahay subxaana watacaala ninkii mataqaana seefta u qaaday inuu ilaahay subxaana watacaala ku cafi aayadda waxay kusoo degtay facfu canhum yacnaha ilaahay aayadda wuxuu ka hadlayay mataqana waxa la yidhahdo wuxuu ka hadlayay يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلهي مركو ليه سحابة ده لقاها لي وحا لقاها لي قال لقاها لي سبحان الله يعني هو بين أول حتى كتاب القرآن كله جيسري قصة قصة وحا لي قصة قدير الخمن بحولي الباني ما وري بالورقة أو فيرس يعني قدير الخمن يعني وحا لي هذا هو قصة بين أو بادل علماء أهل السنة دن ويسوا فقسين بادل تاعي بل سي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحنو لمدي هي أئمة الخلفاء الراشدين إنه يهي وحا لي هذا مضن تولينا وانو ognahay kutubta ee sunnada ay ku taal cadaalada iyadana kamid tahay inay isku sumid noo yihiin cid waliba laakiin si nin walba darajada iyo fadligu leeyahay baanu siinayna طيب waxa la yiraahdo qisada markuu leeyahay kitaab Allah iyo wa'itrati hadaan saxiixba ka soo qaadno aan u daayo saxiix oo aan salimo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aalkiisa isaga u horeeyay Soomaa xaasaskiisa u horeeyay Soomaa waxa u horeeyay ma taqaan isaga adeeradii wii Soomaa in adeeradii caruurtiisa u horeeyay Soomaa dhammaantood inay madax noo saareen dawo ogyahay ilaa bariga hore sunna lagu soo dhalay kabacad uu ka baxay macna maxaa ku jira meeshaas qisada waxa ku jirtay bal faa'iidaha sheegay aayadda ma taqaanay uu ilaahay ma taqaanay waxa la yiraahdo maxay ahayd salaatul janaasa awwal man dakhala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu markuu geeriyooday mise wuxuu leeyahay nabi maxamed ma geeriyoon aayaddu wuxuu leeyahay aayatul inqilaab يعني waxa la ma taqaanay uu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam Abu Bakr baa xuray war waa geeriyooday Umar soo dhahay ma geeriyoon macna nin waxaan ugu noolay miya xagu joogaa duu noolyahay muxuu leeyahay wuxuu ku weydiiyay Abu Bakr kuma tukanin طيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول من كنت مع شيء هرت أصوغ علي أول من دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مركز مرة طبعا كده كده أنت أبو قاضي مركز طبعا كردون قضي مركز يقول دبت يا رسول الله حيا وميتا مركز ديمانتي يا مركز نوليد بقى نبي محمد وواض في عناتي رسولك إلهي باتي إلى قيام ساعة رسولك هذا مين متشرو يوحي إليه ما أنت روح صور شيء رسولك هذا ما يجري aan ka socday qisatul irthi buu dhahay qisatul irthi buu dhahay waxa la yiraahdo dhaxalkii ma taqaan waxa la yiraahdo balodiida qisa inaysan nabiyada la dhaxlin waanu qabnaha Abu Bakrna wuu yiri ha wayna sugantay waa saxiix ha shiicadana nagu waafaqsan طيب aan idin sheego markuu horeysa isagu wuxuu waa gaal oo islaam ah oo kan maaha ilaahay subhanahu wa ta'ala horta quraanka wuxuu ku yiri illa tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnayn u fiirsa meeshaas waxaan ka rabaa فقد نصره الله ألا أجرجاري إذ أخرجه الذين كفروا مركو قالوا كده حصاري ثاني اثنين لبدو دبا يلا بكو يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ثاني اثنين لبا معنا متك لبا كن نقضي يهي يسوس كن نقضين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر صوما معناها ألا أجرجاري صوما إله سبحانه وتعالى أجرجاري ثاني اثنين إذ هما في القار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إله يلجره إن الله معنا يلجرا وأبو بكر نبي محمد يا أبو بكر إنه مركز ثاني اثنين يهي وإلهي سبحانه وتعالى على لسان رسولك سوكل لا تحسن إن الله معنا وإلهي إنه كسر فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين كتبت هذا كتالة كتاب كي هذا بصائر الدرجات للصفار نين بلا يسكله وحكوت على مجلد كوال أفر بقى أفر تنيو لبو يعني هذا الكسوديريا تفسير القمي وذات كاس بابويه القمي يعني جزء كواد واحد اللي هذا جزء كواد 290 bay ku taala
waxaa kaloo kitaab alkaafi lkulayni waa kitaabkii dhehen waan ugu sixixsan yahay waan u ognay in ugu sixixsan yahay say iyagu sheegtaan laakiinse waa wax baadilad la soco waxaa ugu taallaa waxaa la yidhahda isagana juska 8aad safxada 262 waxaa ugu taalla tafsiirkaasi wada marayaan kulligood kitaab kaliya tibyaan lituusi oo isna dhintay qarnigii shanaad ee wadaad dhintay baa wada garanaysaan juska 5aad safxada 221 bay ugu taallaa bal wadaadka ugu dambeeya waa ifsaaxu lilmufiid baa mataqaana qoraya tabarasi baa qoraya waxaasoo dhan way wada qorayaan hal wadaad kaliya aan iga soo qaaday billahi calaykum wadaadkaas wuxuu leeyahay macnaha wadaadkaas wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi aayaddu fasiraya macnaha markaas wuxuu ilaa tansuru faqad nasarahu allahu in taraktum nusratahu fayansurahu allahu kama nasarahu ilaahay subxaana wataala u gurgaay gaaladu lahadi la soco id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya ithnain lam yakun macahu ila rajulun waaxid إذ هما في الغار غار الثور وهو جبل في يمنى المكة عفوا في يمنى المكة على مسيرة ساعة إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر لا تحزن لا تخف إن الله معنا بالعصمة والمعونة عدوا إلهي عصمين يوقر قاري كتبت الشيعة يطايا كتال وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب marka billahi calayk taas waa intaas arinta ku saabsan irtiga ma taqaan ay ku gaalisiiyeen baan taasaan kaga baxaya macna taasaan kaga baxaya kitaabka kaafi lilkulayni maxamed bin yaxya an horta qisada dhameeyo qisada ayada dhameeyo qisada dhameeyo macna kaliya waa mutawaatir cindi agtooda waa mutawaatir yaanaha waxa la yiraahdo inaan anbiyada inaan la dhaxlin ee abubakar uu ka wari rasuulka ahlu sunnahuna waxa la yiraahdo ma taqaanaa yaana kutubtada ku taala sheecadana way ku taala mutaqfa baan ku nahay maxay ku gaalisiinay marka ظلما وعدوان بيكو قالسينيه بل دليل هاو كيانو من كتاب او من سنه رسول كتبته تايدو اسكو وافقسيين ابو بكر قال لبيس كتاب الكليني waxa ku taala mujallada koowaad iyo 20 waaba meesha koowaad xadiiska isagoo soo war in العلماء ورثة الانبياء وذاك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بالله عليكم انبيادنا دينار بدينار toona lagama dhaxlin gabagabada waxa weeyaan kutubtooda dhamde ma taqaan waxaan ay baxar oo barhaya kutubtaas oo waqti ay dhamaaday marka waa isku dar waafaqsanahay dhamaantood بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أن ير حديث تنكرن سؤالك ودير ربي سؤالها أيضا وحان ربا حديث كي يري حديث غدير خم وحديث كايسجا وحديث باطل أتيدا أيان ربا رجع أهل السنة والجماعة إن الله يصدق سوقاته حديث كان من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم رج ضعيفي اللهم والي من والاه وعاد من عاده حديث كايسجا رجع صورة وحكم ذا الذهبي ولو يقان شيخ النقد عند علماء أهل السنة والجماعة كتاب كيس التذكرة تذكرة الحفاظ وحكولها هذا الحديث هو صحيح ولبا الدرجة دي سواء متواتر سير أعلام النبلة سداسو كلا يكسو قادن هي سداسو كلا يسوون وحسو قادن هيو نينكا لو يقان جلال الدين السيوطي سدو كلا رك سو قادن هي يعني ربا هل يلا بقينا إذا كتسو وحكم إذا أحمد بن حنبل أكتي سوا صحيح وحكم إذا نينكا لو يقان أبي العاصم يسوون وصحيح يسوون وحكم إذا الحاكم وعلاه إمام أبو عبد الله الحاكم وهذا الشيخ وهذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه وبخاري يا مسلم شرط يا ليبا يا لولاها يينبا سو سارين ان سي دمسترت marka masaa'il sheeydi kale ee u badnayd ee la weydiiyay xadiidka uu waan isku waafaqsanahay wadaadku inta badan ilaahay ka fogaansho iyo rag iska celi iyo rabbi ka baq meel ma wada gasho xadiidku culimadu kumaynan aroorinin kumaynan soo warinin lafdiga uu isagu ku aqriyay ee ahaa inna ma'shar al-anbiya'i la nurath ma taraknahu sadaqa waxa weeyo inna al-ulama warathatu al-anbiya' أنبياء علماء أيجا دحلو علماء أيجا دحلو أو محي هذا أنو مشايخ يجان دحلي كرا أنبياء على دحلا علماء وحيد حشا أنبياء ورثة الأنبياء وحيك أنو هذا شيخ يجان ما حولان كدحلي هذا الشيخ هذا محولات كدحش معلنك ما حد كدحش دي علم بعد كدحلي أنبياء علم كدحين لكن قرابة دي سبا كدح رسولك قرابة دي سبا دحشو سيدا أديك أي قرابة هذا كود دحش أي رسولك فهم ككلمة أهل السنة واتا رسول أن دحلين بمال القرآن الكريم كه يرثني ويرث من آل يعقوب رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين نعم وحو هيستو نبا لا دحلين بيدي له دنا ولا دحل القرآن كان لغما تثنيه لغما سو ريبين دما ولا ودا دحلي كرا النبي حولا انت دقيقه إما هذا السنين شنتيد دقيقه إما هذا السيسو انت بدن waxaa kaga muuqato gacan khiyaano ina ka muuqan sheekh shantayda daqiiqo isi maadaama uu dasile ugu weydiin waxa dhacaysa marka in waxaan rabaa inaan hada su'aal ka okay aan shantayda dhamaysto kadib marka iyada maadaama uu asaga ku lahaa xadiidka isaga ana sanadkiisa waan sugnay gabi ahaanba aayaadka quraanka ee sugahaya dhaxalkuna la cadada wala xisaab aayad quraan oo sugaysa nabi inaan la dhaxlaynina la yujad fil kitab lama helay dhammaan anbiyada ilaahay waa la wada dhaxlay faatima waxa laga wariyay ummuna aisha xadiidka isaga laga wariyay fiiri
faatima markay weydiisatay ilaan faatima baytul waxyi bay ku dhalatay baytul risaala ayay ku dhalatay baytul nubuwa ayay ku dhalatay cilmiga aabaheed intuu ka qariimiyo abubakar u sheegi waa maya waa waxaan dhici karin ba caqliba faatima marka way u timid abubakar markay weydiisatay way u xanaaqday faqadibat faatima ayaa ku qoran bukhaariga fawajadat faatimana wuu warinaya labada riwaayaba 6 jeer buu bukhaarigu soo celiyay faatima way xanaaqday falam tukallimhu xataa maatat ilaa ay ka dhimato faatima lamaysan hadlin abubakar gebi ahaanba lamaysan hadlin وماتت ودفن زوجها ليلا علي امام علي نهبيني مؤاسي نمانكا اللي هدا وحو سوغي واي مقليزين انه رسولك ابو بكر انه اسي maxaa ka xirmaani madiinu la joogay cilada ka mancisay aaska rasuulullaahi maxamed waxay u baahan tahay in la isweydiiyo waa mas'ala meesha taala sheekh cilada faatima اوكي فاطمه iyadna sidaas oo kale inuu aaso ilaahay baa ka xirmaanay rasuulullaahi maxamed inuu aaso ilaahay baa ka xirmaanay sidaa darteed waxaan hore u soo sugay labadan inay xil boobahayeen oo halka ay iska aadeen saqiifa bani saacida meeshii la dhihi jiray sacd ibn ubaada uu joogay halka ay maamul ku soo dhisteen wax loo dhan yahay oo san ahayn imaam calina oo san la mubaayacoonin 6 bilood oo gaw ah bacda faatima az-zahra iyo wadafniha ayuu la mubaayacooday waliba waxay sugaysaa riwaayooyin fi kutub ahli sunnah wal jamaa saddon riwaayo oo yaa kamida طبري بقى كمده كتاب كيس تاريخ الامم والملوك وحا كمده نينكا لو يقان في حل نينكا لو يقان وحولاه وحو سغاي ان بيتك فاطمه لا ويرري تاريخ الملوك والامم بوكو وليبا سند كيدنا waa صحيح بوله aniga la iga rabaa inaan bartan soo dhigo sanadkeeduna waa saxiix oo guriga imaam cali la weeraray oo rasuulullaahi maxamed beedkiisa la weeraray oo nimankani aynan ahayn niman u shaqaynhayo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulullaahi maxamed dana khaas leh ayay ahay wabillahi tawfiiq هاي شغل صالح شوف هذا وصل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wadaadka waxa la yiraahdo horta erigii hore ee ma taqaanaa aan weydiiyay aan isku waafaqsan su'aalii hore dhow aan weydiiyo dhan ilaa hadda uu ii rahmayeen waxba iga musan jawaabin balse laakiin wuxuu yiri kitaabka quraanka waxa ku qoran in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay anbiyadii inay anbiyadii dambe dhaxli jireen sax nabiyullaahi suleymaan nabiyullaahi daawud dhaxlay oo nabiyullaahi yaxya nabiyullaahi sakariya dhaxlay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay maxay ka dhaxleen maxay ka dhaxay billahi alaykum sultan hadda idin akhriya aan leeyahay ma taqaan waxa la yiraahdo in ahlu sunnah iyo ahlu biyo iyo nimanka la yiraahdo afwan shiicaduba ay isku waafaqsan yihiin wax laga dhaxlay waan idin hayay kutubtiiba aan ku tiriyo aan koob iyo laba idhaahdo daqiiqadan ana iska leh ma inay isku waafaqsan yihiin nabiyada ilaahay in la dhaxlay sax laakiin dirham iyo diinaar toon aan laga dhaxalin laga dhaxlay cilmi ahlu sunnah waa kiil abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu warkaalaya dhaxalkii nabi maxamed la qaybsanay xagee lagu qaybsanay masaajidka oo muxuu yahay waa cilmigi nabi maxamed wax kale laga dhaxlay buu nabi maxamed muxuu ka dhintay seeftiisa iyo baqashiisa bas buu ka dhintay Sooma Abu Bakar baa wari radiyallahu ta'ala markii dambe xadiiskii waa sunanta iyo fadaa'isha loo tiri Abu Bakar sheecaduna ay qaatay bal ilaa idinki bal ila dhageysadii hada inta qaar waxa la kitaab al-Kafi lil-Kulayni baabka la yiraahdo thawabul ilmi wal muta'allimi juska koowaad محمد بن حسن والعلي بن كوذا ورينيا بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد صوّد معنا وحسن تسوّدي وسوّد وحكوليه هي باوح ورينيا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا ويدحل سيين والله دحلي محل قد دحلي العلم فمن أخذ منه أخذ بحد وافر أنا وأنت ملاني سوما بل واحد كانت كتب الشيعة كتب أهل السنة واحد كانت نبي كتب السنة واحد كانت هذا كتب السنة نروح جزء هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حوله إن لقد حلي نبي حوله لقد حلي شري أرنت آيات القرآن كده تفسير كيكود عادي سما وبتجاهل لما إن ما أنت على قرنين آيات القرآن كان نبي وحكوا كلا حلي شري كتاب كما تقال واحد سوى كلا يعني كافي الكليني سنا بتقال باب كلا هذا صفة العلم وفضله وفضل العلماء بسنة أنتم سووا ذا بحكوليه قال إن العلماء وحديث النبي محمد الجوري عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا أنسيوا كتاب المكاسب للأنصاري معناها وحان ربا كلية إن إلى هذا هرت أنس الله وافق هرت أنس فان هرت هدك دين وحيري سؤال رمضان السعودة وحيري كمتها الله كتب متقانا شاع كمتها النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الحوار لقد حلي كرين حوار إلا قد حلي كتها marka waxa rabaa inaan idhaahdo bal kitaabka quraanka iyo sunnada rasuulka ee ahlu sunnah haysan waxaad ka sugtaa nabiyada xoolo in laga dhaxlay waxa rabaa inaan idhaahdo ku sheeco iyo mataqaan ahlu sunnah kitaabka quraanka marjic Allah wada noqonaya waxay wada sugayaan nabi maxamed cali anbiyada ilaahay oo dhanba waxa laga dhaxay inay nabiyada hore nabiyada bay dhaxli jireen ila tafasiirta waa taqaaniin hadeen aqoon hadeer soo bartay hadaad baran weydaan anaga kaalay hadii kalena waxa la yiraahdo mataqaanay ahlu sunnah iyo sheecadu waxay isku waafaqsan yihiin maxay
in mataqaanay nebiyada ilaahay aan xoola laga dhaxlin labadaa shay nebi maxamed uu ka dhintayna waxaan ka tagnay buu sadaqatun weeyaan dee kutubtan ku taala kitaab al-makaasib kitaabka la yiraahdo nahjul faqaha kitaabka la yiraahdo yani kutubtoodii oo dhan su'aasha kale ku weydiinaya oo ku yiri aaskii Faadimo muxuu Abubakar uga qayb gali waayay iyo kii rasuulka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هرت وحان دين شيء أول من دخل النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه هم حي أبو بكر رضي الله تعالى عنه محو يدي طبط حيا وميتا محو كسمي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا من كسكرون كذي بالله عليكم يعني والواحد كتب أهل السنة واحد قصة صارتن هل واحد معناها رسالة أو سجن أو أورانسا أبو بكر كمسون قيب قليل المحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسكيس يسوي له حكي سنة أهل السنة بعد الكوب بلا قصة صار أنا وصار هنا كتبتoodan ku hayna aan ka sii socdo waxaana qoray in khilaaf waxba kama jiraan arinta kale uu yiri wax la mataqaan wax la guriga Faaduma la weeraray waanaha waa ceebeen ehelbeedka oo ceebeynay horta ehelbaad oo ceebeynay mataqaanay hadaa leeyihiin waxa la yiraahdo waxa la weeraray guriga Cali baa la weeraray oo beedka rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam la weeraray Cali waxaan isku waafaqsan inuu nin geesiya oo karaar ay agtiisa la mari jiray sax ninka soo dulmiyay billahi calaykum Cali baad ceebeynaysan mise Abu Bakar macnaha baxad sugtaan inuu horta weeraray kow annagu waxaan idin leeyahay taas ceeb idin ku noqoto waxaad leedihiin guriga Abu Cali ba inta la weeraray baa li ahaaneystay waliba feer baa laga jabiyay kutubta ku qoran feer bay ka jabiyeen waxa la dilay mataqaan Abu Bakar baa dadku dalbaday waa la garaacay bal kutub yar sunnah ka soo ka taas macnaha ujeedada kaliya ah waxaan waa been weeyaan kitaabka quraanka waxaan idinka sugay iyo xadiis iyaga iyo annagu baan isku waafaqsanyihiin cinda Allah inay ka ahaayeen Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman khulafaa ur-raashidin inay ka ahaayeen dad ilaahay ka raaliya ka ahaadeen jannadana ilaahay ugu bishaareeyay بل إسقوا كاس بل إلهي أنتوا إسقوا الله حق شيكتو بل واحد خلاف سنها كيانو كتاب كي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام إسقى عيب كتاي أستاك فاضل من تاريخ تصالح در مصافيرين محو حق آسواي وحاجة شو عرور تدي فربضن إيه أهل بيت كيو فربضن مركب كتاب أهل سنها كموسى قيب قال أبو بكر ما يلحق شيء إسقى عرب دي جوابت موقت إسقى كرهبا معناه إسقى إنه وح شيء ما يصير آسنين يا ده موسى آسنين أهل سنة حاجة كقرنت أهل سنة حاجة كقرنت marka waxa rabaa si mantiqiyan oo ma taqaanay ehlu cilminimo inaad markaad sheegayso inaad wax u sheegtid baa la rabaa inaad wax iska sheegto waqtiga iska dhamayso ceeb ay kugu tahay ma santiin su'aalaan u gudbayna ilaahay idinkii مسائشن أنك جواب هل بسم الله الرحمن الرحيم صحيح البخاري وذاتك أنت بدنا واحد مدة كتبتي سإنه سنكور قبين هدو سنقف كتبتي سنكور قبين والله هو عاروي بخاري وحوليه كتاب المغازي باب غزوة خيبر مركو كهد الهي يا وحكو سوقاتي فاطمة وحوليه فاطمة مركي ويديستي فماتت فاطمة ويدمتي فلما ماتت هذا مركي دمتي دفنها وحاسي زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وحده كل جيبه كتب كذي ومت النجا بخاري كسمعت وين وهاي إنه مقنع ملغيابة ميل فوجري ميل بسافر بقوم أوسن كعين بميل أوسن كعين تنكلم رسول الله عليه وآله وسلم كيس أوسن كقيب قلناها إنه أوسن قال الرسول كوارون إنه أوسن قال بس وشيء سير أعلام النبرة تاريخ البلادري تاريخ اليعقوبي ابن جرير انت ما انه سن كقيب قلن بيسوها يعني قبي اهم باتفاق باللويه رسولكم موسى آسن صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر وحي كمتها مسائش الهي كحرمانيه لبدودبا اني رسولك آسن صلى الله عليه واله وسلم سؤالان ويديو يجو موجوده هي halkaas ay ku tahay insha Allah waxaan jeclahay labadiina dhinac inaan su'aaladan weydiiyo waxaan ku horeynayaa Sheekh Cabdirashiid aan ku horeynayaa oo su'aalaha weydiinaya Sheekh Cabdirashiid حديثك كورمية ثقلينك شيء صحيح البخاري ومسلم بكو قرآن النبي يقول له صحيح المسلم لبضوا بكو قرآن يقول له إن هذا الأمر لا يقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة قال ثم تكلم حديثك 12 يدا كوضع حديثك 12 يدا الشيء لبي طبعا خليفة إن كذا بين النبي وليه ما حد كجت جواب لهذا أنتاس بسم الله أستاذي يسوق قوي كتابك صحيح مسلم يسوق قوي عظمات ويا الله يسوق كتابك وين بوران كيال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحيح بخاري صحيح مسلم وحكي الله 12 خلفاء إني جيران باكو قرن كتابك صحيح مسلم كسر صار واكن بخاري هذا مسلم يقول انا لا انا هذا مسلم بعد يقول هذا بخاري مسلم يقول هذا مسلم حديث الثقلين بيقول وذاك شيخ وحين أنا حديث الثقلين وذاك خلدمي وذاك خلدمي حق ما حديث الخلفاء حديث كذا أو كذا أنا سؤال ترتيب
bukhaari iyo muslim waxaa ku qoran baa le waxaa la yidhahday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid yihiin khulafadiisa 12 kitaabka iga soo saaro waxaan ku leeyahay xadiiska horta dee waa kee xadiiska tuskow waa qodobka koowaad wey qodobka labaad wuxuu yahay magacyadood maxaa la yidhahdaa qodobka saddexaad khaliif yaa la yidhahdaa sug horta taa hore waa laga jaray hay tan su'aashan kama sax tan ka jawaabina أنا كجواب هي شيخ tan su'aashan weydiinaya laba su'aalood aan ku weydiinaya su'aasha koowaad waxay tahay xadiidka bukhaari iyo muslimku uu soo saaray ee sheegaya 12 inay jirto ahaa khaliifa nabiga ka dambaysa oo ay shiicadu ku dhagan yihiin bal ka jawaab xadiidkaas muxuu ka hadlayaa waxa la yiraahdo horta xaqiiqadu waxay tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa xadiis laga warinaya waxay ahayd mataqaanaa 40 sano oo khilaafa baa jiri doonto oo khilaafatu raashidiin 40 sano la qaybiyay dimo waxa loo jiray mataqaanaa Abubakar 2 sano bad Umar mataqaanaa 10 sano bad Uthman bin Affan 10 sano iyo wax 10 sano wax mataqaanaa waxa soo Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala oo waqti yara iyo Hasan bin Abi Talib Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala 40 sano taas ku buuxsadeen taas mid weeyaan su'aalaan weydiiyay waxaan ku dhahay khaliif maxaa la yiraahdaa magacyada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay magacyadood maxaa la yiraahdaa magacyadooda kala sheeg macnaha taariifka waa koow khaliifadooda kala sheeg waa labo ka saddexaadna wuxuu yahay asmaada iyagu ay tiriyeen anigu waxaan u keenayaa macnaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraan buu soo dejiyay muhaajiriintii markuu noo sheegay kutubtooda iyo taayadana waxaa ku qoran abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali radiyallahu ta'ala afar khulafaa raashidiin waa isku waafaqsannahay intaa wixii ka dambeeya macnaha waxaan rabaa inaan idhaahdo iyagu ha ii keenin macnaha meesha kutubta ahlu sunnaha ka keenin magacyada iyo asmaada waxaan isku hayno waa magac hadduu hadda ku yahay kan khaliif wuxuu ahaa mataqaana waxa la yiraahdo anigu khaliif baan waxaana sheegay diintayada kitaab kaafir waxaa noogu qoran khaliifka taariikh la soo bixi doona khaliifka minka halkan jooga Nairobi minka Daharaan jooga miya mid Washington jooga miya tan mise maxay ka wadeen macnaha ujeedada asmaadan macnaha sax igu tiriyo dabeetana kutubta ahlu sunnaha iga soo su'aasha labaad waxa weeye xadiid mutaqalayn oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku adkeeyay dardaarankii in la raaco kitaabka iyo citrada ahli taraktu fiikum الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيت الله معناها waxa la yiraahdo xadiiska hadeer macnaha xogaa wada yara khaladeen waxaan idinkaga tagay labadii cuslaaman idinkaga tagay ما إن تمسكتم بهما أنت أذ هيستان لن تضلوا من مسان بعد كتاب الله وسنتي بو رسولك عليه الصلاة والسلام رواية كلام حالي كتاب الله إياه وعترتي أهل بيت هو كمدي هاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكمدي هاي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكمدي هاي حاسسك رسولك عليه الصلاة والسلام وكمدي يعناها متقانا عروت ولا علي بن أبي طالب حاسس رسولك عليه الصلاة وكمدي عباس يا عروت كمدي طيب marka ma lumaysaan maxaad ula jeedaa inta nabi maxamed aadan ku xadgudbinin oo aad haysato ismadiisa oo aadan xaasaskiisa ku xadgudbinin oo aadan qaraabadiisa muslimiinta hay'ada ilaahay subhanahu diinta qaatay aadan ku xadgudbinin qofka noocaas waa hanuunsan yahay maalinka aad ku xadgudubto oo xaasaskiisa aydo oo ma taqaan waxa la yiraahdo isaga qaraabadiisa aad wax ka sheegto gaalaysiin sida Abdullah ibn Abbas ay shiicadu gaalaysiiyeen markaas ka bacdi waad halaagsamaysaa ee su'aal kale waa sunnati baa lagu yiri xadiiska kala socya waa sunnati waan jamcinayaa dee meesh ma istiidayaan صحابة إيه متقى أهل البيت كل مدح إنه ساري احترام كود سنة الرسول عليه الصلاة والسلام جواب مستر كيجا عنه كم فارنه يقول بلها كجوابين حال جودي أهل البيت كيجا قال يصير كل وقول لي هذه أخوينا سؤال هذه أخوينا يا لبي يطبق إمام بعض شيئين وأهر يا علي هذا هو كتاب كله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد متن نجا بخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بخاري متن ديسان قال كتاب القرآن أنا وحين سبون حتى كتاب بخاري وحليه جابر بن سمرة حديث النبي والنبي من بعدي 12 على ولا غرب 12 خليفة أنا قال حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش لما أنت وحي هاي قريش مركز جابر بن سمرة وحوره هو مصيكن كان كهل تنبيس وحدث جابر بن سمرة نصير حبيان تفسير وحقق علي هرب قد علي واجب تنبيس فما سؤال شكل وحويه لبي طبعا كان خليف وحاوه الرياض تراهن النبي صلى الله عليه وسلم حقد بين مركب علي
wuxuu dhalay soddon iyo kow wiil soddon iyo muxuu dhalay maya cali intaas uguma dhalin xasan iyo xuseen maxaa ku gaariyeen khaliifada dib uga sheeg بسم الله الرحمن الرحيم حسن يحسين وحا كدون ييلay sida ay umada uga fadli badnaayeen nabigu uu yiri al-Hasan wal Husayn sayyida shabab ahli al-janna sida darteed makhluuqa uga fadli badnaayeen waxay kale uga fadli badnaayeen makhluuqa quraanka kariimka sheegay oo nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam ninba uu kaasoo uu rasuul Allah waxaan kula muwaayacanaya tawxiidka islaamka oo kala muwaayacan kaasoo wax kale ma kula muwaayacanaysa markaasuu yiri inna al-mawaddata fi qurb mawaddada albayt in la jeclaado xadiidka qalina waa dib istaagi doona haday wadaadku buriyo moogta waa dib istaagi doona markaasuu yiri nacam albaytkaaga waan jeclaanaya waxa soo degtay manhaj waxa soo degtay aayada quraanka hayda ahayd qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fi al-qurba wa man yaqtarif nacam حسن جروبسدو su-aasha kale waxay tahay xasan iyo xuseen xasan awlaad buu dhalay xuseenna awlaad buu dhalay xuseen maxaa looga tegey isagana maaha miyaa xasan حسن horta waa imaamka labaad bacda amiir almu'miniin alimaam cali ibn abi talib isagaba ayaa ah waxaan jeclaan lahaa dad fursad ii siin lahayd han daqiiqaba allah ka dhig inaan xadiidu thaqalayn sharxo si ay dadku u fahmaan halkan iyada xadiidu thaqalayn waxay tahay su-aashan waa su-aal gaar ah oo madax bannaan weeye xuseen iyo xasan waa walaal soo maaha waa ilmo cali soo maaha xuseen hal wiil uu dhalay yaa la daba galay intii kale xuseen xataa waa laga tegey soo ma waa mas'ala basiida waa fadli ilaahay uu bixiyo midda iyada nabigaana bixiyo waxaa cadeeyay daliilka ii sheeg ku khaas yeelay xuseen wiilashiisiina ka tegey xasan wiilashiisiina ka tegey xuseenna hal mid oo wiil keliya ka doortay inta kalena badda ku daray xasan lama asagaba kow ah laba waa xuseen wiilashiisa marka la sii doortay maxaa loo doortay su'aashu waa saasaan malaynaya jawaabteedu waa kan الإمام الحافظ سليمان القندوزي وإمام وين من أئمة أهل السنة والجماعة وحنفية في كتابه ينابيع المودة وحكورنا حديث أوليه سنة كسوا صحيح النبي يقول إنه أنا سيد النبيين أنا أنبياء إلى سيد كودي بأنا وعلي سيد الوصيين علينا وقوة الله دردار من سيد كودي وإن أوصيائي من بعد 12 أوصياء إذا قدم بيسنا واللبية أولهم علي وآخرهم القائم المهدي إمام المهدي مركب وحن إنه إمام علي تلمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية كسوغن إمام الكافي رواية ورنها الإمام محمد الباقر المجلسي انتبه وحي سوغيسا ومن أئمة أهل السنة والجماعة إنه النبي يري بعد إمام علي بقى إمامه كو أهل السنة والجماعة أنا وندول استاجي دونا تقوي دي سوى جعلان لها يجونا إمام علي بقى بعد إمامه بعد حسن بقى بعد حسين بقى بعد زين العابدين علي بن الحسين بقى أبي بن كعب وهداد لك كلن توجد ولي بقى أبو أيوب الأنصاري أبي بن كعب لبضوا ضبع يا جابر لبي يتمن كذا بوتري ها عندنا بوتري ولبا وحن نقوى فقسم بعض من أئمة أهل السنة والجماعة الحافظ سليمان القندوزي في كتابه ينابيع المودة وهو إمام كبير حنفي ويان ولبا بحلي وسنده صحيح هذا هو واضح جدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta markii hore su'aalihi kale ii dambeysay waxa ku soo jiray billahi calaykum waxa ku jiray waxa la yiraahdo khilaafada horta balahan maxay tahay taariifkeeda horta ku jiray taariifkii laada kama hayo waxa kale ku jiray waxaan weydiiyay kutubtiina waxaan ka haynaa war khulafaa ur-raashiduun oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkii uu soo diray gadaashiisa khaliif uga sii ahaa ummadda ee diintiina aad haysataan idinku aad sheeganaysaan iyo annaga tii ilaahay uu noo soo dejiyey waxay wada qirayaan inay ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cuthmaan sidaasoo kale intaad u tirisaan bal kow iyo laba nooga dhaho kutubta ahlu sunna laga saara ama wadaadka qanduusi uu sheegaya miya horta wadaadka qanduusi uu markii hore uu sheegaya kitaab macluum ah oo wax ahlu sunnaha ay leeyihiin masaadirtooda ku jiro kamid ah ma jiro waa arrin muhiim arrinka in la fahmo horta marka horeysa arrinka labaad aan kusoo gabagabeynayna waxay tahay annaga waxaa weeyaan maa minka shay aan ku haysano oo ilaahay kitaabkii sunnada rasuulka baa horta alxamdulillah waxaa sidooday u qirayaan waxaad ku taqaan horta niman is haysta maa macnaa iskama warhayaan kow midda wuxuu wariyay abubakar radiallahu tacaala canhu khaliifkii buu ahaa mid kale adiid yaru tilmaamay qofkii lacnada jannada ku gelaya anagu hadda kaas umaan ku qabananaa bal sidaas oo kale idinku bal anagu diin midaysan oo lug ima taqa ilaahay waxyigiis wama yantiqu can hawa in huwa ilaa waxyan yuuxa ilaahay noo leeyahay macnaha say ku bilaabatay ilaa iyo dhammaadkeeda saa isu wada haysataa bal waxaan isagoo isku qasaya kutubtayada ah muctamadka ah rasmiga ah naqaane taala maktabadana joognaa tobankan khaliif la sheegayo ila leeyahay xadiid saxiixa ku soo arooray oo magacyadooda tiriyay ka war
بسم الله الحمد لله حديث صحيح كسر حديث صحيح محلي هذا مركو هري سواء شيء ومهم إلى شيء حديث حديث صحيح وحديثك سندا متنا وحويان حديث كوريها قف عادل له إسلام مركزنا وحلي هذا يرويه العدل بالوجليه إلا يمشي وجود ما يسيك الوريه عن رحلة كلا قوينين دبيتنا أشاد نقنين معلل نقنين بل سنت كيس إتري سنت كيس الشك تكلم مالين أن ويدي علماء الشيعة إن كمدها وحول شيء إن حديثي إنه أينا مركا لهين سند بل ورا been buu sheegay xadiitanadu sida ay sidan leedahay waliba cilmiga loo yaqaan cilmul mustalah ee waxna lagu taxqiijiyo waxna lagu kala hufo annaga ayaa uga kitaab badan cinda ahli sunnati wal jamaa طيب waxaan rabaa xadiidka isaga wuxuu ku sugan yahay al-Hafid Sulayman al-Qanduzi fi kitaabihi Yanabi'ul Mawadda xadiidku waxa warinayo Jabir ibn Abdullah lambarkiisa ma xifsani laakiin waan keenay xadiidka meel walba laga heliba Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Samura wuxuu warinaya Bukhari دحديسه حديث كي خلفاء إن بعدي 12 خليفا أيو ورينا يا إسحاق كان جابر بن عبد الله طيب لبضع سان ربع إنا كلا سوا وحول ذاتك حديث العترة وحول النبي وسنتي بالنوجت حديث كاس ما صار جابر بن عبد الله باورينا حديث كجابر بن عبد الله وحكورينا يو وحديث كسو قاضي هيو وجابر بن عبد الله كسو قاضي هيو أمنا أم السلمة أو جابر بن عبد الله أو صالح يان أركي أنا وان أوجا مخراتك عاي وسنده صحيح حديثك وحلقة من عن ظهر قلب وأنا ده كريم ده كريم لكن حديث كمان هيا عند الشيوع قاصح عند الشيوع ما حتى عند أهل السنة والجماعة الحافظ سليمان القندوزي وهو إمام كبير جدا عند علماء أهل السنة والجماعة وهو إمام حنفي وين حديث كما هي ما سند كيس وابس صحيح بنقول بحديث إمام كإسقى هذا بصحيح يا ليبا حديث العترة وذات كبر بريان بنا تكبر سوي حديث سوي نبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث العترة وحاورنا يوم مسلم وحاورنا ينك اللو يقان الترمذي وحاورنا يا ابن ماجه ترمذي وحوله مركو ورنا يا حديث حسن غريب نك اللو يقان الباني نورنا يا وحوله إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ساسكورنا يا إسونا حديث كان أوله وسنتي أنا مالك ابن أنس يا وحكورنا يا بلغني وحيسو قاري وحسند اللي وعبيراته وسنتي مجرى كان مسلم كسوغان كان نبي الباني بس يسوي سنتي ساك هي ان دمر waa maasan tahay su'aasha ugu dambaysan jeclayna ku weydiiyo waxay tahay Aisha oo kale يا صحابة كلام موضوع دم خلافات عرب صح ما مركز سؤال موضوع دم خلافات هي وما سنتين إن شاء الله هالكاسم كوجا كمان الله يبارك